الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم آمين ولا ليال كل تهويلك شيخ رشيد شيغا ايو ماشي كل ميال ماشي انا كل مركا هذا الأنصار الصدي وحن صوت ديار صدي متران لكن من عفو الخاطر إن شاء الله بان كلمات شيء دونا أن بدنين أشيادنا وحلوقي بيا مرنا للتعليم مرنا للتذكير مرقفك وحن أقوم بالبراء الله شيئا وتعليم وطاولي هي وفوائدها الله قرأ كل تهدكم سوء تلقين مرنا وللتذكير وقفك وحو يقاني بالحصوصية وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ووانو يحصوصين وانا اللي اسكولي يهي إن ليسوانيو خيرك يوناقنا اللي يسحصوصيو شرطنا معها كحصوصنا يا إنو يهي أفضلك أما فاضلك إنو يهي حتى مفضولك وحصوصين كرا عدك فضل بضن حرجين يا إننا خير بدنتين وعلى الأقل وابن قد ميرتي أنت ما لقيت وحيك قريتي ويكهبني لكن أنا وقت بدن وإحنا لقى قري حديثك والنبي يقول عليه الصلاة والسلام ولا تحقره قفك مؤمن كحقر هيصن هقورصن العلم يقاركود مركا حديثك شرحيان وحي الشيء فائدو قفك وإن نسأرن وتكفض لي بضنته وإنه قف والبكم ملايا ومؤمن أما مسلم إنه كخير بذنه دو إسلاك الرئيو وآفو تدك وين نهوسو إيجن قفك وإنه ملونا أكسن كملايا قفك الظاهر كيسو السلامة يسطري هي يعني حمان يبدع لقو أقين وإنه كم ملايا إنه كون أكسين هدو كون يهي wuxuu oranayaa uu ka khayr badan yahay faa'iidadaas ay culimadu sheegeen wuxuu maleynaya inuu ka khayr badan yahay yaani waa ka ajar badan yahay waa inaad istiraada waa ka ajar badan yahay waa ka khayraad badan yahay muddo badan buu cibaadaysanayay muddo badan buu tukanayay soomayay oo salaadayay oo sadaqada oo dhikri oo khayr kaas waa qofkii ka weynaa sidoo ku maleynaa hadduu ka yar yahay yaanu quursano is oran isagu waxa weeye dee halkan dhow waa inuu is yidhaahdaa waa kaa dembi yar yahay marna wuxuu milicsanayaa xagga ajarka zamanka badan laga qoraayo marna wuxuu milicsanayaa xagga sayi'aadka iyo dembiyada markaasuu wuxuu is odhanayaa muddo fara badan baa adiga lagaa qorayey dembi waan isaga laga qoray mana oga qofku xaqiiqada markaa ma ogaa cinda allaahi qofka afdalka ma ogaa يا خاتمة سوحي نقض نوتتهم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن حاب السورو بكرته كوقور صنيا إنه يسوع عند الله خير بدين مركز أود ملون أكسن لسكم ملايو قفكنا وحوية تواضع وأرهن آدي المهمة اسخ إلى لي كبر كي صرع سقاطك كبرك هو آفة خطيرة waayo cilmiga iyo diinku ku duximaayo ma galaayo haddii qofku markaa uu isla weyn yahay oo isagu iskibriyo allah baa wuxuu yidhi saasrifu can aayaatihi aladiina yatakabbaruuna fi lardi bigayri ilxaq waxaan ka leexinayaa aayaadkayga kuwa arlada ku kibraaya ayaan ka leexinayaa oo bimacnaa kuma duxayaan oo ma gelayaan qalbigooda oo ma anfacayaan marka cilmigu روح كبرك كسغنيا هي مقالو لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر اثرت السلفي وقت الماميسو علمي قلبا ما برتان روح مركا كبره يا روح حشوده ساشبك حشونيا marka mas'aladu garan waayay wuxuu is oranayaa hadaad marka mas'alada tiraahdo taasi maxay noqonaysaa ama maxay tahay على سؤالنا يترو مسألة عين كاسميان وقرنين قدر كاغا هوس ودعيا جهلي بدل الآمصية
jahligii inuu mar ka baxaa waxay ka fiican tahay dee inuu weligiiba ku sugnaado saas aawadeed su-aasha waa inaan laga xishoon. cabdullahi bnu cabbaas markii la weydiiyey bima adrakta alcilma wuxuu ihi bilisaanin sa'uul wa qalbin caquul. cilmiga maxaad ku haleesho ku gaadhay? laba shay baan ku gaadhay carab su'aal badan iyo yacni waxa weeye qalbi weelayn badan, labadaasaan ku gaadhay bilisaanin sa'uul wa qalbin caquul. markaa ruuxa su-aasha ka xishoodaa dee jahliga ka bixi maayo. allah baa amray su-aasha, qofkii aan wax garanayni shayga uu garan waayo cidda garanaysa inuu weydiiyo. fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun fas'al bihi khabiira. nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, xadiiska culamada qaarkood ay quweeyeen sida sheekhu alalbani labadiisa dariiqu isku quweeyey, hal laa sa'aluu ida lam yaclamuu inamaa shifaau lciyi su'aalu. may weydiiyaan hadday garan waayeen, inamaa shifaau lciyi assu'aalu. garashawaaga dawadiisu waa su-aasha. yacni waxaa laga soo qaaday jahliga inuu yahay cudur yahay. cudur maadaama uu yahayna cudurku dawuu leeyihi. ma anzala allahu min daa'in ila anzala lahu dawaa'a. yacni cudur kastoo ilaahay soo dejiyey yacni dawo u yeelay, dawo ayuu yeelay marka gabowga iyo geerida laga reebo. calimahu man calimahu wa jahilahu man jahilah. marka jahligu waa cudur. cudurkaa waxaa laga dawoobaa su-aashaa laga dawoobaa. fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun. weydiiya ahlu dikriga haddaydaan garanayn. marka waajibkiisu waxay tahay hadduu garan waayo su-aal, marka su-aashii qofku inuu ka xishoodo ma. caaisha watay la yaabtay dumarkii ansaarta iyo siday nebiga su-aalaha u weydiinayeen. ay tii dumar waxaa ugu khayr badan dumarka ansaarta. lam yamnachunna alxayaau, xishoodkuuma diidin inay diintoodii fahmaan oo isku dayaan inay fahmaan. markaase ashyaada laga xishoodo caadatan bay nebiga su'aalayeen calayhi salaatu wasalaam. oo dhiigga caadada sida laysaga maydhaayo iyo dhiigga caadada iyo dhiigga istixaadadae dhabar furanka sida lagu kala garanaayo bay nebiga weydiinayeen. addumarta qof dumara nebiga ku odhanaysay calayhi salaatu wasalaam, yacni waan xaydaa kamana daahir noqdo, dhiiggu igama bago'o. markaasaa nebigu u sheegayay siday yeelayso. mid kalea nebiga weydiinaysay, markaasaa nebigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam, yacni gufee. yacni wakhtiga markaysa markaa waxaan yacni ayaamaha dhiiggu joogo, yacni dhiiggii caadada ku beegan tahay mooyaane maalmaha kale waad gufaynaysaa, dabeedna markaa waxa weeye waad weysaysanaysaa. markaad maydho baad gufaynaysaa, dabeedna waxa weye way ka badan yahay bat intaa wax gufa celiso waa ka badan yahay. hadda maarta nebigu waa u caddaynayey, ha u sheegay. qof dumaroo kalea nebiga weydiinaysa calayhi salaatu wasalaam, dumarka ma saaran tahay ama qofka dumara ma saaran tahay maydhi ida ixtalamat, haddii ixtilaam ku dhaco? markaasaa nebigu ku odhanaya calayhi salaatu wasalaam, nacam idaa ra'at ilmaa, hadday biyo aragto way maydhanaysaa, maydhashaa saaran, janaabay ka maydhanaysaa. markaasaa lagu celinaya, haddana la su'aalaya, zawjaadkiisa mid ka midii weydiinaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo odhanaysaa, dumarku miyay ixtilaamaan? markaasaa nebigu odhanaya calayhi salaatu wasalaam, haddaa bima yakuunu shabah, maxaa ekaanshuhu ku yimaadaa? oo ilmuhu marna ugu ekaada abtiyadii iyo hooyadii, marna ugu ekaanayaa aabbihii iyo adeeradii. kullu daalika waxay sheegaysaa su-aashii ba sheegaysa, ay tilmaamaysa. mid kale nebiga u imanaysa calayhi salaatu wasalaam waxay su'aalaysaa siday dhiigga caadada uga maydhato. markaasaa nebigu u sheegaya calayhi salaatu wasalaam oo odhanaya, firsa mumasaka soo qaado, yacni markaysaa dabeedna meesha si aad raayixada uga tegsiiso mari, dabeedna tataharii biha. markaasay ku celinaysaa, kayfa atataharu biha? markaasaa nebigu xushoonaya, subxaana allah, tataharii biha. markaasaa caaisha waxay tii waan kaxeeyey, wuxuu nebigu doonayay calayhi salaatu wasalaam ba dabeedna u sharxay, aanu caddeeyey. maxay nebiga umuuraha laga xishoodo u weydiinayaan? waxay rabaan sanad caali. soo cilmu mustalax alxadiis kumaydaan arag yacni asanad alcaali wasanad alnaazil iyo culuw lisnaadka siday u raadin jireen. adilada loo daliishanayo culuw lisnaadkay ka midta, waayo
qofkan dumara ee saxaabiyadda ee nebiga su-aasha ula tagtay siday dhiigga caadada uga daahir noqoto way garanaysaa inay cid kaleba arrinkan u caddayn karto way garan kartaa zawjaadka nebigu sala allahu alayh wasalam badankoodu waa xaydayeen da'da xaydka wixii dhaafay waa yaraayeen marka maadaama badankoodu ay xaydayeen way yaqaaneen sida xaydka laysaga maydho nebigana waa ka qaateen ismay odhan yagaa idinku filane iyaga su'aala ee nebiga calayhi salaatu wasalaam inta su'aasha ay ula timi afkeeda ku weydiinay xataa caaisho ii weydii ma odhan nebiga intay u timi calayhi salaatu wasalaam bay ku su'aalaysaa afkeeda ku weydiinaysa oo doonaysaa inay dhegaheedu maqlaan oo rasuulka maqlaan tatlubu culuwa alisnaad sanad caaliyay raadinaysa waxay doonaysaa inaan cidi u dhaxayna toos uga qaadato arrinkaa cilmiga nebiga calayhi salaatu wasalaam marka su-aasha waa inaan laga xishoon cilmiga waxyaalaha lagu bartana waxaa ka mida yacni marka bilisaanin sa'uul wa qalbin caquul laa yatacallamu alcilma mustaxyin walaa mustakbir kii su-aasha ka xishoonayey cilmigii baran maayo ka iskibriyaana cilmiga baran maayo waayo kibirka waynagii sheegnay inuu yahay aafo cilmigii u diidaysa waxyaalaha kibirku qofka ku kalifaayo waxaa ka mid a inuu is yidhaahdo kitaab uu yaraysto uu is yidhahdo kitaabkaa yacni qadarkaaga u munaasib maaha inaad dhigatood fadhiisato ardayda yaryar inaad la fadhiisataa ku munaasib ma aha waa ninkii looxoo ma yaqaano oo maanta ma ogtahay wuxuu dhiganayey kitaabkii 40 ku dhegaysanayey bal qofku isagoo yaqaanuu dhegaysan karaa admarda in sheekha wuxuu yidhi waxaan akhriyey kitaabka adwaa'ul bayaan baan halkaa kaga bilaabay xagga kalan uga baxay kulligii waxa ku yaalla waan akhriyey hal mas'alo igu cusub kuma arag buuri yacni kulligeed waxa ku yaallaa macluum bay ii ahaayeen in sheekhaasaa yidhi admarda shay cajiiba waxay culammadu taalacdaan shuruuxaad badan oo kala duwan waxay u taalacanayaan bal faa'iida ziyaada inay ka helaan faa'iida ziyaada inay ka helaan bay markiisa u taalacanayaan ku celcelinta cilmigu waa fiican tahay in laga kibro ma aha maanta markiisa ma waxaasaan dhigan karaa risaalada yar baan dhigan karaa ma usuulu salaasaan dhigan karaa yacni waxa weeyaan ma ardaydan yar baa wax la akhrisan karaa waa nooc kibira wey yacni shucba ka mida markaysa markaa isla weynidii ba qof ku jirta munaasib noo waxay ahlucilmigu yidhaahdeen qofku cilmiga maqaam kama gaadhaayo sare ilaa uu cilmiga cid walba ka dhegaysto man fawqahu waman huwa mislahu waman huwa duunah mid ka sarreeya mid la siman iyo mid ka hooseeya mid walba damaarta ahlucilmiga qaarkood waxay dhegaysan jireen dad ka cilmi yar bay waqtiyada qaarkood dhegaysan jireen bal inay ka helaan faa'iido iyaga seegtay qad yuujadu fi lanhaari maa laa yuujadu fi lbixaar waqtiyada qaarkood webiyada waxaa laga helaa waxaan badaha laga heliyo qad yabkhalu ljawaad waqad yajuudu lbakhiil waxaa kaloo la yidhahdaa waxaa dhici kartaa kii deeqsiga ahaa ee deeqda badnaa inuu waqtiyada qaarkood gacan adkaado oo mararka qaarkood waxba bixin waayo waqad yajuudu lbakhiil waxaa dhici karta marmarka qaarkood kii bakhaylka ahaa inuu markaa maalin deeq bixiyo wax ku deeqo bacdu ahlicilmi waxay ka faa'iidaysan jireen talabadooda waayo taalibka laftiisa waxaa dhici karta bacdu alfawaa'id oo naadira inuu helo majmuuca cilmiga sheikhu ha ka cilmi badnaado laakiin mas'ala naadira waxaa dhici karta bacdu almasaa'il oo sheikha marka waxaa yani seegtay ama ka laaqantay in arday helaa dhici karta marka ahlucilmiga qaarkood waxay ka faa'iidaysan jireen xataa talabadooda bay ka faa'iidaysan jireen waxay sheegaysaa tawaaducii bay sheegaysaa tawaaduca iyo cilmigu waa isku jaal waayo rifcada dee waa loo ballan qaaday man tawaadaca lilaah rafacahu allah nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ruuxa ilaahay dartii u tawaaduco isu dhulliga allah baa kor u qaada ya kii iskorraysiiyana hoos baa loo dhigaa hoos baa loo celiyaa yani waxaa lagu ciqaabayaa binaqiidi qasdi wuxuu doonayay wax ku liddi ah saas aawadee waata xadiiska ku soo aroortay aakhire in la soo saarayo dadka mutakabiriinta ah iyagoo amhaala dar ah quraanjadoo kale ah dadku isu taagayaan inay iswaaweynayaan dadka iska korraysiiyaan bay dooneen
markaasaa la yaryariyo hoos loo celiyo hoos baa loo celiyo xataa fi dunya waa saas waxaa laga yaabaa siduu markaa isu korraysiinayo in haddana waxa weeye markaa arrinkiisu markaa u noqdo hoos u noqdo ya mid tawaaducayana waxaa laga yaabaa sare ilahay inuu qaado laba arday misaalada waqtiyada qaarkoodna waa sheegay oo ka markaa waxa weeye mid uu fahmo badan yaho dakaa badan yaho maskax badan yaho faham badan yahay midna laga faham badan yahay fahamkiisu xoogaa culus yahay laakiin kaa fahamka culusi uu yahay mutawaadic kan fahamkiisu aadka u koreeye dakaaga badan ee maskaxda badanna uu yahay mid isla weyn oo isla koreeya waxa barako badanaya aan shaki ku jirin kaa mutawaadica hadda waxaa laga yaaba markay wax wada baranayeen kan damiin baa loo yaqaanay hoosna waa loo eegayey ka kalena daki fahmo badan oo cajiiba inuu yahay loo yaqaanay haddana yaday caynkaa tahay caaqibada waxay ku dambaynayaan ka mutawaadica ah in cilmigu galo sarena loo qaado kan mutakabirka ana talabka cilmiga kuma sii jiri karo waxay u badantay inuu ka dhaco amsina badan bay leedahay waxaa jiri jiray nin loo jiray cabdalla alqasiimi ma maqasheen samictum cabdalla alqasiimi wuxuu ku dhex jiray mashaayikhdii iyo culammadii dacwa najdiya ruduudaha qaarkoodna waa ka qayb qaatay kutubuu allifay ahlucilmiga qaarkood ay la yaabeen quwada iyo mataanada raddigiis ciddata kutub buu allifay oo mashaayikhdii ashar iyo mashaayikh kaleba oo suufiyada ka midaba uu radiyey ruduuddiisuna waxay ruduud qawiya ilaa shaykhu alxarami almakki oo qasiido ku ammaanay aad iyo aad u ammaanayo ammaantaasina waxyaalaha sii kadiye ka midta waayo ammaantu waqtiyada qaarkood waxbay cawartaa ya qofkoo markii horeba isla weynaa haddana haddii la sii ammaano dee waa ka sii daraya caaqibada wuxuu ku dambeeyey markii dambe riddo iyo kufri iyo ilxaad halkaas ku dambeeyey ahlucilmigu waxay yidhahdeen markii hore laftiisa wuu isla weynaa ruux tawaaduca ma ahayn aqoonta wax la midii inaanu jirin suu isku ammaanaayey suu isu korraysiinayey dee wuxuu ku dambeeyey tareenkii inuu ka dhacay dasiisada markii hore ku jirtay baana sababtay ina arajula la yacmalu bicamali ahli janna fii ma yabdu linnaas qofku wuxuu camal falaa camalka ahlu jannaha sida dadka u muuqata ilaa isaga iyo jannada aynay u dhaxaynayn dhudhun mooyaane wax kale sida xadiiska nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam markaasaa kitaabka u soo hormaraa markaasaa fayacmalu bicamali ahli nnaari fayadkhuluha camalkii ahlu naarkuu sameeyaa deedna waa galaa bimacnaa sidiibuu ku dhintaa sidii ayuu ku dhintaa marka fii ma yabduu linnaas culammadu waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa qofka markii horeba dasiisa inay ku jirtay aanu ikhlaaskiisu saafi ahayn ya marka kibirku wuxuu ka mid yahay aafada markaysa marka waxaan yani dadka qaarkood gasha ayay ka mid tahay marka dambena ka daba timaadaan marka kibirka aad iyo aad helisaga jiro waayo kibirkiiyo cilmigu isku jaal ma aha col bay yihiin alcilmu xarbun lilfata almutacaali kasayli xarbun lilmakaani alcaali cilmigu col buu la yahay wiilka iskorraysiiya kasayli xarbun lilmakaani alcaali sida daadkuba col ula yahay meesha korraysa daadku wuxuu cararaa meelay meeshay ka godan tahay meelay meeshay ka hoosayso sululux halkaasuu cararaa laakiin meesha kore meesha taagan waa ka leexdaa ma koro ya waa tacbiir mariix sida daadku markaysagaa meesha korraysa uu la col yahay oo aanu u korin meel sare ee meel hoosuun cararo saasoo kalea cilmiguna wiilka iskorraysiiya uu col ula yahay aanu u gelaynin innaga aayaddii soo sheegnay saasrifu can aayaatihi aladiina yatakabbaruuna fi lardi bigayri ilxaq hadda maarti marka tawaaduca khayr ku jiraa waa in la tawaaducaa
ikhlaaska iyo niyada in la wanaajiyo lagu dadaalaa kibirka la iska jiraa ammaan doon qofku aanu noqon ammaanta dadku maxay kuu tari hadday ku ammaanaan hadday ku caayaan si maxay ku yeeli hadday ku caayaan waxba ku yeeli maayaan hadday ku ammaanaanna waxba kuma korraysiinayaan ya kuwa allah korraysiiyo ayaa korreeya marka xagga allah inaad iska dhisto iska hagaajiso inaad ku dadaashaa haddii lagu dhaleeceeyo u fiirso waxa lagu dhaleeceeyey hadday xaq tahay waxa lagu dhaleecaynaya ee sax tahay wixii iska ilaaliyo iska dah hadda marta inaad ha samaynaha isku adkayn ficinaadku anfici maayo hadduu doono qofka markaa ku naqdinaya usluubkaa xumeeyo waxba kama gelin shayga uu sheegay wax saxa hadday tahay qaado alxikmatu daallatu lmu'mini anna wajadaha fahuwa axaqu biha xadiisnimo waa loo soo wariyay lakin xadiisku ma asixin lakin waa xikmatu min alxikam waa xikmatu min alxikam alxikmatu daallatu lmu'min xikmadu qofka muuminka waa wixii ka maqnaaya ka lumay anna wajadaha yacni meel kastoo uu ka helaba akhadaha waa qaadanaya marka shayga saxda ah cid qaldan baa xataa sheegtahay uga tegin hadduu ruux bidcoolii uu ku radiyo laakiin raddigiisa uu ku jiro mas'alo saxi ay ku jirto mas'alada saxdaa qir xaqa casiis ah sheekh muqbil raximahullah nimankii raafidada ahaa iyo shiicada ahaa aad buu u radiyey ruduudo aad u fara badan buu ku radiyey hadday duruusihiisa tahay hadday kutubtiisa tahay hadday rasaa'ishiisa tahay hadday fataawihiisa tahay yacni waxyaalo badan buu yani markaa ku radiyey wuxuu sheegay sida laga soo naqliyey nin raafidiya i radiyey buuri deedna raddigiisii baan akhriyey buuri waxaan ka helay buuri 3 mas'alo igaga saxan yahay hadda maarta 3 mas'alo sax ah ayuu sheegay dadka ahlulahwaaga ay waxay ku khaldan yihiin ma dhaadaan walow haba waaweynaadaan waxay ku khaldan yihiin hadday doonaan shirki ha gaadhsiisnaan shirki akbar ya laakiin ahlu sunnaha ama salafiyiinta khata'a yare ka dhaca tafadum bay u leeyihiin oo ku baraarugayaan saasaa samaysaan saasaad tidhaahdaan waana khalad haddii waxa ka weynay ku sugan yihiin ma dhaadayaan laakiin shaytaanku wuxuu ku baraarujinayaa ahlu sunnuhu khata' yari hadduu ka dhaco khata'a shaytaanku waa u bidhaaminaya say ugu dhaleeceeyaan ahlulxaqa ta noocaas waa mid dhacda mar baa waxaa dhacday nin suufi ah ayaa wuxuu aad u karaahiyeysanayey ashyaadan shirkiyaadkay la yimaadaan in la sheego shirki lagu sheego markaasaa bacdulmashaayikh bay waxay wada raaceen iyagoo xajka ku socda diyaarad markaasaa la yidhi wadaadadii mashaayikhda qaarkood ha loo dhiibo kelmad si ay dadka ugu yidhaahdaan oo dee xajka marka inta ayna xidhan ay yara baraarujiyaan siday u xidhanayaanna ay u sheegaan markaasuu tiibu wuxuu nacayey moogtay in tawxiidkiiyo dee laga hadlo markaasuu arrinkii buu dhibsaday wadaadadii markaysa markaa la yidhi ha loo dhiibo ayuu midba doonay inuu markaysaa wax ku naqdiyo xagga reerahoodu eega markaasuu kani waa reer hebel hal xaaraana caanaheed baa lagu soo koriyey oo dee geelay qaadi jireen buu leeyihi kan kalena reerkoodu waxay ku dhaaran jireen buu yidhi 100 sano ay waxay ku dhaaran jireen wejiga astaadka tawxiidkay noo sheegeen maxay tahay wejiga astaadka bimacnaa wuxuu tilmaamayaa alxalif bikayr illaah tawxiidkii inay ka hor imanayso walow shirkul asqarba ha noqotee arrin tawxiidkii dhaawacaya inuu yahay marka maanta tawxiidkaad noo sheegaysaa maxay tahay haddii reerkiinuba 100 sano ku dhaaran jireen wejiga astaadka anigu lama socon diyaaradda laakiin mashaaikhdii la socday sheekh ka mida ayaa qisada ii sheegay ninka suufiga warka yidhina waa ii sheegay dabeedna waxaan xasuustay qisadii markaa waxaa weeye ku saabsanayd ninkii saxaabiga ahaa ee riyooday in nabiga calayhi salaatu wasalaam riyada u sheegay ee yidhi jamac waxaan soo maray yahuud ah
markaasaan ku yidhi inakum la antum alqawm lowlaa annakum taquuluuna cusayru ibnu allah markaase waxay igu jawaabeen wainakum la antum alqawmu lowlaa annakum taquuluuna maa shaa allah washaaa muxamed mid waa shirku lakbar midna waa shirku lasqar jamc kaloo nasaara baan soo maray buu ihi markaasaan ku yidhi inakum la antum alqawm lowlaa annakum taquuluuna ciisa bnu allah markaase waxay igu jawaabeen waa riyo nebigu u sheegaya calayhi salaatu wasalaam markaase waxay igu jawaabeen buu ihi inakum la antum alqawmu lowlaa annakum taquuluuna maa shaa allah washaaa muxamed qisadii markii nebiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam nebigu dadkii waa la hadlay wuxuu ku yidhi waxaa odhan jirteen hadal kaana yamnacunii kada wa kada an anhaakum canha sidaa iyo sidaasaa ii diidi jirtay inaan idinka reebo riwaayaadka qaar baa ku soo arooray xayaa baa ii diidi jiray xishood baa ii diidi jiray inaan idiin diido bacdu ahlicilmi waa istishkaaleen sidee xishoodku ugu diidaayey mas'ale sharciya caddaynta uu caddaynaayo iyo reebista uu dadka ka reebaayo dabeedna waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa riwaayadaas inayn ansixin laakiin bacdu ahlicilmi waa tawjiihiyeen waxay yidhahdeen waxaa lagu xambaarayaa markaa hore nebiga calayhi salaatu wasalaam arrinkaa reebis laga reebaayo waxyi lagu soo dejiyo laga reebaya inaanu jirin wax ummadda loogu diidayo waxyi ahoo nebiga lagu soo dejiyey oo mas'aladaa ku saabsan horay uma jirin laakiin isaga min xaysu nadar waxaa u soo degdegaysay inayna fiicnayn oo la iska daayo dabeedna wuxuu ka xishooday wax dadku ku mucaamilaan ma yidhaahdaan way ka caado yeesheen oo sharcan yacni waxyi reebaya aanu u imanin oo ku soo degin inuu isagu ka reebo saasaa xishoodku ugu diidayay laakiin haddii waxyi ku soo degi lahaa arrinkaa u diidayaa marnaba nebigu calayhi salaatu wasalaam ma daayeen inuu dadka ka reebo kama tageena waa ka reebi lahaa markaasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ha odhanina maanta laga bilaabo maa shaa allah washaa muxamed ee waxaad tidhaahdaan maa shaa allah waxdah saa dhaha saasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiisku waa haabit waa sugan yahay kitaabu tawxiidna waa ku aragteen waa ku marteen asheekh maxamed ibn cabdilwahaab marka uu masaa'isha kala baxaayo masaa'ilulbaab uu soo aroorinaayo waxa uu cabbiray mas'ale ah fahmu linsaani ida kaana lahu hawan qofku inuu fahm leeyahay oo wax fahmo isagoo hawo leh yacni bidca iyo wax isagay ku sugan yihiin ayaa haddana fahm uu leeyahay oo mas'alo yacni uu ku baraarugayaa qalad ah oo dadka ahlulxaqi ay ku sugan yihiin markaasuu odhanaya arrinkaasi waa qalad arrinkaasi waa qalad odhanaya adamaarta marka dadka ahludalaalkii waa dhacdaa inay wakhtiyada qaarka wax ku naqdiyaan asheekh muqbil waxa uu yidhi 3 mas'alo ayuu markaysa markaa uu ku saxan yahaan arkay dee xaqu inuu casiiz yahay daraaddeed 3 waa qaata wixii aad ku qaldanto waa inaad qirtaa walow cid markaa waxa mukhaalif ahiba ha kugu soo arooriso laakiin haddii aad ogaato yacni wuxuu inaa lagugu naqdinayaa inaynay ahayn ama lagugu dhaleecaynayaa wax markaa naqdigaa mudan aynay ahayn ay tahay mas'ale ijtihaadiya ama ay tahay mas'alaad ku saxan tahayba waxba dhaleecayntoodu ku yeeli mayso waxba dhaleecayntoodu ku yeeli mayso haddii ijtihaad ay ku dhacday oo iyagu ijtihaad ay ga dhacdayna waa ay xaqu leeyihiin inay ijtihaadaanna dee waxa weeye markaa waa macduuriin haddii ijtihaadka xaqiisii ay mariyaan laakiin ijtihaadka haddayna xaqiisii marin dee isagaa ku dhib qabaa amaba markaysa isagaan markaa u xaq lahayn oo masaa'isha noocaasa yacni markaa uu kugu dhaleeceeyey xaq darro yacni wax adiga markaysa markaa ku dhibaya ma dan ha ka gelin ammaan dadka ha doonin dhaleecayntooduna kaariyaynay kugu hayn laakiin xaaladaada inaad saxdo fastaqim kamaa umirta waa inaad ku dadaashaa toosnow sidii lagu amray marnaba dadku kuma wada ammaanayaan kumana wada dhaleecaynayaan imaamu shaafici muxuu yidhi rida annaasi gaayatun laa tudrak
ورضا الله غاية لا تترك تذكر رالي هانشود ويول أن لقارين هذا مرت ورضا الله غاية لا تترك رالي هانشاه إلهينا ويول يعني مركا وتشيدو إن لقتك أين أهين إن للي ما دايتها هذا استهدتك وذا رالي قليل كل يبقى كامل وذا رالي نغنيان عدكم رالي عيني سوى الهلية فهتذكر مختلفين marka haraadin dadka raali haanshooda raali haansha ilaahay raadi muxuu allah kaaga raali noqonayaa taas raadi ku dadaal wuxuu kale imaam shaafici yiri rida an-naasi ghayru ma'mur wa ghayru mustata' dadka raali haanshoodu laynama amrin dadka raali galiya ma aragteen dalil sheegay dil ardu an-naas sheegay dadka raali galiya ma jiro marka ma'mur ma aho laynama amrin مستطاعنا ما هو لما كري كرو هذا مرتا لكن رالي هانشا إله إلا رالي قليو وأنا مأمور به ومثل أمره ولا ينا أمري وأنا مستطاع ولا كري كرا مركا مذا لينا أمرين أين أودي بكرنا سين أدور بدنا أو قدور بدنا كي لينا أمري أين كري كرينينا أو إن الله رالي قليو يا الله هذو كار رالي نقضه عدة ونكسنا ورالي قرينيا قار كار رالي وكييريا إن الله إذا أحب عبدا إلى هاي هدو أدون شعل هذا نادى جبريل بقول واقع وحيد هذا هبل بان شعل هذا شعلو مركزات جبريل شعل هذا مركزات جبريلنا أهل السماء قول واقع مركز كوي هذا إلى هاي وحود شعل هذا أدون كيس هبل أيو شعل هذا هبل فأحبوه مركز يقول أهل السماء باتشعل هذا فيوضع له القبول في الأرض جدنا أرلضنا قبول بالوردقا قبول بالوردقا معناه ذمها كل قد باكوض الرالي نقول يوضع شعلانا لكن وحلقات الماما يا عدي يعني مركا قمن وحوي غرض كمرا يوتشد يحسد يوحلم إذا كمرا بمركا يسمى مركا لقيه ليقار كرها في الحال أو في المآل أما مركا هوري اللي تشوقه أي ساكي ليا أما عاقبة ضد ما يكون ضمينس عشان مشايخ ذقار كودو مركا النولايين أدلو علادي أدلو دباتي لكن وانا قودا يعني مخالف موافق بمركا دم بقى قرين يعني وحوية قلوبت إلهي قعمه سيكو جرتا إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء مساس أودي يعني مركا ضدك أمان تودي رالها شهودا وحبدنها كقرين إخلاصك كود ذالا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نيدي إخلاصك وإن آدل وجود ذالا بركض علمك عبادتنا وحي كحد نانيس إخلاصك وأصلك متابعتي وهو بهانت السنة للراعي لكن الأصل الأصيل وقلبك وإخلاصك قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب تطفر بدن وعمل كودا ظاهر كأهي أي الشبهان أما يسكمديهين وحيكوك على كرمرين بما في القلوب وتابعي قيل بكر بن عبد الله تابعي قيل لورنشري وحيري ما سبقهم أبو بكر بكثير صلاة ولا صوم ولكن بشيء وقر في قلبه أبو بكر الصحابة كجمهور مرين إنه كالصلاة بدنا تابعي قارنا أما كالصوم بدنا كجمهور مرين لكن وح قلبي قدقي أيو كجمهور مرين قلبي وين آدل وجود ذالا أنت عملك الظاهر كأن وجود ذالا إن كبدا وإن قلبي وجود ذالا أنت نصوص إخلاصك صاروت ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين يا قل الله أعبد مخلصا له ديني وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إخلاص يعني أدل هذا الشيء يسوى بضنده حتى حمانها هو اللي قال لي حياء عدة مركز يسوى مخلصين تا إلى هيء حشي يقول إخلاص كمركز الليل يا إنه من عبادنا المخلصين نبي يوسف إن لقال لي حياء حمانتي محاصاب لو قد قاي إنه كم إذا الدوم هذا إلهي الله دورتي قاري الشيء
المخلصين يا المخلصين ها فرق يا ودحيا ها اسم فاعل اسم مفعول يعني مرنا إخلاص كيغو كدعيا مرنا waxa weeye Allah baa gaar yeelanaya marna amalkiibay Allah u gaar yeelaya labada iyama koreeya al-mukhlis ya al-mukhlas al-mukhlis mukhlas mas khilaafteen ha waayo ilaahay baa doortay sidoo ku helaya qofkaas marka inuu ilaahay xusho oo gaar ka yeesho bima yudrik waa inuu marka hore isagu ikhlaaska la yimaado yani ikhlaaska inuu la yimaado ka horeysa inuu marka waxa weeye ilaahay marka gaar yeesho waxa laga soo naqliyaa asar culamadii hore laga soo raro Sahl ibn Abdullah Tustari الناس هلك إلا العالمين والعالمون هلك إلا العاملين والعاملون هلك إلا المخلصين والمخلصون على خطر عظيم عبارة وحلقة صور نقلية إن ردت كوا هلاك سمين كوا علم قلمو يعني كوا علم قلمو هلاك سمين كوا علم كوا عمل فلمو يعني كوا علم كوا عمل فلنا وهلاك سمين كوا إخلاص كليمة دمو يعني كوا مخلصين تأهنا خطر بيكو سبين والمخلصون على خطر عظيم وتلماما يا علم يا عمل يا إخلاص صدح لها دي الإسلوى إن خطر لقو سبين يعني الهلاك سمعي وددي هلاك قال لها ويقفك الجهل هدوك عمل فلو وعقيدة دي وح الصحني أنو تشرين حلقة يابا الشركيات إنو لي ما دو إساقو إسله وحباد وناكين إساء وحلقة يابا عبادات كينو لي ما دو إساقو شروطه قاركود كتغاية أما أركانت قاركود كتغاية وحلقة يابا عبادة سنين أصحن ارجع فصلي فإنك لم تصلي صحابه الولي كل نقاطك ما تكني هذا مرة إخلاص هدو هلاقي سوى إسكعدي هاي وهي صدح النار تلقوه هرين يا وجوه الرأي وحلينا وجو شيء كو إخلاص كواي نيدو كحماتين هاي عمل الذي لي من ينظاهر كوافي عناية والجهاد يا إنفاق يا وحوي مركا قرآن آخر سي علمي صدح عمله خير لي لكن محي عذاب توقو قلين محي عذاب توقو قلين إخلاص كبي وايين أما أنت دادك يكون دونيين عمل كاوناكسن جهاد كأي قريان وحو قريي سلو يلاذا وجريء وديريه وقيسي انفاق السميني سلو يلاذا وجواد وصخي وديقسي وي أي السميني أو حبي حناي قرآن كو آخرين أي وحو آخرين اللي يقال له قارئ سلو يلاذا وحوي وقارئ قرآن يقال يا هذا نوحي عاقبة النقطتين النار كلام مركا الأصل الأصيل إخلاصك مركا إخلاصك أدوين لقد ذلك قفك وإنه يشاء خبيئة من العمل الصالح عمل قرصون وبشر كأن أقيم يا الله هو أقيهي وحيسوين وضع النقون وحالانية ودتك بحر يسوون قصة ما يوم أعمال قرصون وإساق أقار وإنه يشاء بي لهذين العلماء دول نسكت ضيناتا إنه سمينهم يا تتمع عنه ما هاني قال ما كان له لكن علماء وحي يلاهدين ولو يرانكم بس قنام به إن أنصار نقليه ويطهر ربما يعد كفائدست مركز أساس أودد وإن لقد ذا إخلاصك من يد اللي وناكشيها بركة إخلاصك إن يد وناكسني أذبح وأنفعس أنقص النقض هالمسألة دي هرين markuu leeyahay wal mukhlisuuna ala khatarin aziim wuxuu ka tilmaamayaa xagga khaatimada uga jeeda marka darajada mukhliska ka sareysana waa mukhlaska Allah muxuu yiri inna akhlasnaahum bi khalisatin dhikra ad-dar annaga gaar yeelanay waxaanu ku gaar yeelanay bi khalisatin dhikra ad-dar yani khasla khalisa oo xasuusadka daarta aakhira ay xasuusanayaan way ku sugnaayeen xasuustaas in xasuustooda arrinkaasi ku weyn yahay aad iyo aad u xasuusan yihiin xasuusteeda badinayaan taas sababteedana ku gaar yeelanay sababta nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam akthiru min dhikri hadim alladhat
farabadiya xasuusadka ka macmacaanka gooya ma geerida walaalayaal da'yar baad joogtaan waxaad joogtaan markaysaa waqtigii dhallinyaronimada shahawaadka adduunyadu waa badan yihiin waxyaalaha dhallinyarada u hilaaca waa fara badan yihiin marba waxbaa la tusaa dhallinyaronimaduna dhacdhac badan bay iska yeelataa saas aawadeed buu fadli gaara u yeeshay wiilka dhallinyarada ee cibaadada ilaahay ku barbaara 7 yudilluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluh waxaana ka mid ahaa washaabu nasha'a fii cibaadati illaah yacni wiil dhallinyaro oo cibaadada ilaahay ku barbaaray sharciga waxaa lagu yaqaanaa dawaacida xumaanta keenaysaa ee sababaysaa markay fara badan tahay qofka markaa haddaba dawaacida ajiibi waaye iska adkeeya ee wanaagga ku sugnaadaa inuu yahay isagu afdal oo fadligiisu badan yahay waa sababta wiilka dhallinyarada ee ku barbaaray cibaadada ilaahay yacni markaa loogu daray 7 harhka carshiga ilaahay la hadhinaayo loogu daray wey laakiin marka dawaacida shahawaadka iyo xumaanta u yeedhayaa oo xumaanta sababaya ay yaraato qofka xumaanta la yimaada dembigiisu waa ka wan yahay dembiyada kale yacni marka dawaacida u yeedhaysa xumaanta iyo shahawaadka oo xumaantaas sababaysaa marka ay tahay mid yar oo yaraatay qofka markaa xumaanta ku dhaca iyadoo dawaacidii u sababaysayna ay yar tahay dembigiisu waa ka wan yahay dembiyada kale waa sababta nebigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu sheegaayey yacni 3 yacni ilaahay ma eegayo oo il raxmadeed ku eegi maayo lamana hadlayo maalinta qiyaame mana tahirayo cadaab alimaana u sugnaaday 3 maxaa ka mid ahaa 3 waxaa ka mid ahaa nin boqor ah oo ummaddiiba isagu u taliyaa been inuu sheego cabsi ama wax ku kalifayaa meesha ma yaallaan waa daciif hadda marad hadduu markaa isagu been sheego uu noqdo boqor been yaqaana uu noqdo dee dembigiisu waa ka weynaanayaa dembiyada kale nin faqiira oo kibray dee faqrigu wuxuu keensanayay dee inuu markaa tawaaduco soma maalku waxyaalaha lagu kibro ka mid yahay haddaanu maalba haysan madaxnimona haysan oo haddana kibro waxay ku tusinaysaa shakhsiyad xumo uu shakhsiga daatadiisu xun yahay bal hadduu maalqabeen ahaan lahaa ka warran isagoo faqiiruu kibrayey hadduu maalqabeen ahaan lahaa ama isagu boqor ahaan lahaa ama amiir ahaan lahaa muxuu samayn lahaa dadka gebigoodaba duqsi buu arki lahaa sooma suu doonaa u geli lahaa u xasuuqi lahaa marka yacni dawaacida dembiga u yeedhaysa markay fara badan tahay qofka iska qabta xumaantii oo wanaagga ku sugnaada fadligiisu waa weyn marka da'dii dhallinyarada ku sugantihiin xadiiskii waa ku soo arooray culimada qaar ay taxsiininayeen yacjabu rabbuka min shaabin laysat lahu sabwa rabbigaa wuxuu la yaabaa wiil dhallinyaro oo aan dhacdhaca lahayn yacni mayl shahawaadka u iisho aan lahayn wanaaggiyo daacadun ku sugnaadiyo cibaadada ya xadiiska ahlucilmiga qaarkood baa taxsiiniyey marka fadli gaaraa ku jira saas aawadeed waa in lagu sugnaadaa oo ariiqani wuxuu u baahan yahay sabir buu u baahan yahay dhallinyaradu inay wax bilaabaan waa sahlan tahay laakiin wixii inay daa'imaan oo joogteeyaan adayg baa ku jira waxay u baahan tahay sabir bay u baahan tahay sabirkana ajarkiisu waa weyn yahay sabirka inaynu isla dardaaranno waa arrin muhima ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri maxaa la isu raaciyey yacnii in sabirka la ysu dardaarmaa xaqa in la ysu dardaarmay ka mid tahay waa min alxaqi laakiin gaar maxaa loogu sheegay liahamiyatihi muhimadda khaaska uu leeyahay sabirku daraaddii baa gaar loogu xusay ya min baabi caطfi alkhaasi cala alcaam shay gaara lagu cadfaya shay guud lagu cadfaya damarta wax kastoo wanaagsan waxa lagu gaadhaa sabir fi dunya walaakhira biduuni sabrin yani lagama midho gaadhaayo wixii wanaagsanaa sabir la'aan sabirkana ajarkiisu waa cadiim inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab kuwa sabraya ajarkooda waxaa loo wafeeyaa loo dhammaystiraa xisaab la'aan
acmaasha kale inta la labanlaabay oo laynoo sheegaa 10 goor 700 goor ya laakiin sabirka waxa la yidhi innamaa yuwaffa as-saabiruuna ajrahum bighayri xisaab wa xisaab la'aan luqatu al-arab marka la yahay bighayri xisaab waxa loo yaqaanaa yani shayga aadka u faraha badan way quraanku wuxuu ku yimi luqada carabiyeed buu ku yimi luqada carabiyeedna haddii shayga la yahay waa bila xisaab haddii la yidhaahdo waxa laga tilmaamayaa inuu cadadkiisu aad u badan yahay ilaahay waxaan u xisaabsanayn u tirsanayni ma jiro allah wuxuu ogyahay wax walba yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuun waxa allah ogyahay wixii hore u jiray iyo waxa jiri doona iyo waxaan jirayn hadday jiri lahaayeen siday noqon lahayn buu allah ogyahay xataa waxaan dhacayna jiraynba fardan wa taqdiiran hadday jiri lahaayeen siday noqon lahaayeen buu allah ogyahay walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wa innahum lakaadibuun wax dhacaya maaha haddana siday umuruhu noqon lahayn buu allah inoo sheegay ya ma ittakhada allahu min waladin wamaa kaana macahu min ilaah idan ladahaba kullu ilaahin bima khalaqa walacala bacduhum cala bacd ilaah kaloo xaqi inuu jiraa ma dhici karto ma dhicin mana dhacayso mana dhici karto abadan waa mustaxiil haddana hadday dhici lahayd siday umuruhu noqon lahayn buu allah sheegayaa idan ladahaba kullu ilaahin bima khalaqa walacala bacduhum cala bacd marka allah wax loo tirsan wuxuu yaqaanaa cadadka makhluuqaadka iyo wax kastoo jiri doona iyo wax kastoo hore u jiray iyo wax kastoo jiri doona iyo waxaan jirin hadday jiri lahayn say noqon lahayn marka bighayri xisaab waxaa lagula hadlayaa yani sidii usluubkii luqada carabeed lagu yaqaanaa looga jeedaa ya way bini aadamku awooddiisu waa xadidantay haddii imka bini aadam lagu yidhahdo ciidda arlada taalla tiriya oo sheega cadadkeeda ma kari karaan maya ma awoodi karaan saas aawadeed wixii aynay markaa leeyihiin waa fara badan yihiin waxay leeyihin waa bilaa xisaab bay yidhahdeen iyo bighayri xisaab usluubkii ay yaqaaneen ina anzalnaahu qur'aanan carabiyan lacallakum tacqiluun kii baa lagula khitaabay marka sabirka aad iyo aad buu muhim u yahay marka dhallinyaradu inay wax bilaabaan waa sahlan tahay laakiin inay joogteeyaan oo daa'imaan ma sahlanaan ya marka ruux walowba ku dadaal kuwa ka dhacaaya jarajarada kuwa tareenka ka dhacaya inaanad noqon aad ku sugnaato laakiin berri meel kale inay ku hilaacdo aad tidhaahdo niyow halkan markaa waxaabaa ka roon hadda inaad iska shaqo tagto hebel baa shaqo tegayoo xooluu maanta leeyihi hebel baa dhoofo waxaasuu leeyihi hebel baa siyaasad galo waxaasuu gaadhi bal waxaasi waa waxyaalo liita weeye cilmigaa ka sharaf badan hadday madaxnimo tahay iyo hadday maal tahay iyo hadday magac kale tahay cilmiga wax la qiimay ma jiro nolosha adduunya la joogaana waa wakhti kooban addamarad ma iska cararaysaa adduunyada waxaa soo maray tujaar badan dad badanoo aqniye ah dad badanoo maal badan ama qaaruun ha noqdo ama cid kaleba ha noqoto amwaashoodii miyay xoole wax ka baaqi yihiin xoolihii qaaruun meel lama lagu sheegay boqorradii xoolaha badnaa ka warran markaa mulkigoodii iyo xoolahoodii maxaa ka baaqi ah wax ka baaqi ma jiraan ma jiraan soomaalidu waxay nin iyo xoolihii waa israacaan laakiin culammadii cilmiga ku dadaashay cilmiga nashrisay cilmigoodii baaqi ma yahay mise maha waa baaqi aahaartood baa lagu intifaacay iyagoo xabaasha ku jira baa ajarkii u soconaya markaasaa kutubtoodii la akhrinaya laga faa'iidaysanaya markaasaa ajarku wuxuu u gaadhaya isagoo mudaacafa war maalka waxa ka qiimo badan ubadka waxa ka qiimo badan mulkiga waxa ka qiimo badan ya wax kastoo adduunyada la qiimeeyo waxa ka qiimo badan war cilmiga sharciga ah oo qofku niyo ikhlaas oo ilaahay dartii ah oo ku barto kuna nashriyo waa nafci mutacaddi ah oo tallaabaayo waa sababta caalimku uga fadli batay caabidka fadlu lcaalimi cala alcaabidi ka fadlii cala adnaakum nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ka caalimka ahi fadligiisa uu ka mudan yahay ka caabidka ahi waxay la mid tahay sidaan anigu ka idinku hooseeya uga mudanahay yacni inteebaa u dhaxaysa fadliga nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo fadliga adna asaxaaba darajatan
كصحابة ugu darajo hooseeya fadligiis fadli aad iyo aad u weyn baa u dhaxay bal fadliga nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo fadliga nabiyada qaar kood baa aad u kala tagan darajaad badan bal ka waran fadliga nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo fadliga Abi Bakr ya bal ka waran marka fadliga nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo fadliga ka saxaabada ugu darajo hooseeya sida fadligoodu u kala tagan yahay ba caalimkii iyo caabidka fadligoodu u kala tagan yahay arrin cadiim asarta cilmigu waa baaqi cilmigu wuxuu kamid yahay waxyaalaha baaqiga noqda ya waxa jira culamo aan ubad yeelan laakiin kutubaha ay qoreen aad loogu intifaacay aad looga faa'iideystay cilmigoodina intishaar imaam an-Nawawi baa kamida al-Imam Ibn Taymiyyah kamida ayma badan oo kala kamida cilmigoodi baa lagu intifaacay الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله على الجميع وحول كتابك وقرأ الجامع الصحيح سقال إنن وإيغا في عينيه تعبير كذا سقال إنن شيخ إنن ما مدارين المكت لبها بلود بكتيجي وحانو تلماما يقيمها كتاب كاسي وحو إيغا في عينيه يبو يري يعني 9 أبناء سقال إنن marka cilmigu inuu qiimo badan yahay waa ina ogaataan idinku qiimihiisa garanaya waa ina ku dadaashaan niyadana wanaajisaan asooranina markaysa cilmiga hadaan barto hadhow maxaan marka ku dambeynaya maxaan adduunyada heli doona ya saan maal u kasbanaya saan wax u helaya caynkan hadhow malcaad baan qabsanaya warihay farajkiisu waa iska jiraa arinku malcaamadun maaha risqi ilaahina waa badan yahay قفك أرزاق اسمه مكتوب وقرنتها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعني قفك استبر رزقي سهران الله قرأ هذا سكة استمر كيسا أودة داشو أرزاقا لقو قرن مسو كسبانيس منك ريرمية محولي كل قوة أدوما دا ربه قرأ كميستي وحنيك استوى كبتياء أمك الله أما كل يرفوله إنا روحنا سوكر السنين كاهل أقادو توني ريرمية شاعرة أرزاق وحي لغو قري وذي ليس حلو بهاي صبر بالو بهاي علمي لغو صبره لغو دذاله تاسا مركيسا آدي مهمة واحد شرد ضد مركيسا أرزاق ذا الدنيا ذا آد الرادي آد لغو دذالي كل رفاضي مركيسا سيدي أدوني لكن هضنا آن مركا وحوي وحبذا نهيب يمكن تذكر وحي آمسين وإذا كل ديري إن مركا وحوين هدو قفكو أما يوروب أما مريكان تاقو إنه حولوه دردرسيهين أو دي العقد سوقة تاتالو بس عنك اسمتي دي والواحد شرا ما وعد واحد شرا قارب بدنو حقات تقي والشقات تقي وبلدات تقي وأفكو ديرادة شرا تعبير كأفكار ديرادة مقرصان قاتشا أود بودارا مربا waxa yimi ninba yimi wuxuu ka soo noqday yaani marka beledada galbeedka doodna wuxuu yiri waxaan maqnaa 17 sano ayaan marka joogay Mareykan hay hadan ka yimi maxay inta soo noqon weydi waxaan ku soo noqdan waayay ragii waagiyadii hore duruusaha dhageysan jiru kamid ah waan inta aad markiisa wax fiican baday iga yareen guurkii ugu horeeyay hadan guursaday bi guuri أنا مرة ترى مكوية تونكي بهاد مسلمية تونكي مالهاس waxaan ku guursadana waa waay waxaan ku soo noqdana waa waay 17 sano Mareykan ma joogay dhalinyaro badan waxay isleeyihiin haddaad meesha tagto yaani lacag caadi ku soo gali doonta dadka qaar kood lacagtu maxay ka soo gashaa qofkii xalaal miranaya marba inaan baan ugu soo noqday mugti wuxuu ka yimi wadanka Ingiriiska muddo doorana waa maqnaa markaasuu nusbalo dhisto markaasaa lagu dhaleecay ma ninkaaga inta maqnaaba waxaad soo kasbatay waxay noqotay nusbarood maxay tahay ninkii baa wuxuu tagay nin kale oo markiisa marka ka da'weyn oo isaguna beledada yaqaan oo joogi jiray xaqa markaasuu yiri hebel waxaan ku weydiiyay ilaahay baan kugu dhaariyay nin xalaal miiranaya nusbarood wax ka badan miyuu meesha ka soo dhisan kari lahaa inuu aabayeen lagama hadlayo oo wax walba ka degalay kiil walba galay dilay doofarka noo qal doofarka u qala
يعني هدي la yiraahdo markiisa doofaarka noo raaco doofaarka u raaca hadii la yiraahdo dheelada markiisa marka ka shaqeeya iyo markiisa marka waxaan yani iyo dukaanada markiisa khamriga iyo markiisa marka qurunkuba yaaliin wax kalena yaaliin ka shaqeynaya nin kiil walba gelaya laga hadli maayo ya nin yiraahdo lacagta iyo aniga arag baa naga dhaxeeya meesha lacag ku arko waa laga heliyaa ya lacag hadii laga helo waa laga heliyaa hadii lacag laga waayo laga ma heliyo in Pakistani aad u iman jiray baa markiisa xaramka oo mar oo markaas adeedna iqaamadii markiisa aad ku jooga ma jiro waa la qabtaa waa la musaafiriya oo soo noqda waa la qabtaa waa la musaafiriya mar walba markaas macruuf buu noqday war maxaad mar walba isaga soo gelaysaa meesha markaas xaram fi ana fi xaram ma fi ana ma fi meesha haduu xaram joogo xaramka ku sugan yahay anna waa ku sugan yahay xaram hadii laga waayo anna waa laga waayo marka nin baa de xaram fiyo kale waxa uga dhigan yaani haday lacag meesha ku sugantay anna waa laga heliyaa hadii lacag laga waayo ya laga ma heliyo nin saasa laga hadli maayo laakiin nin islaalinayo isdhowrayo diin dhowranayo oo xalaal meeranaya laga hadlaya hada marka tijaarada qofka markiisa marka wadanka ka shaqeysta ya haduu waxa weeyaan marka ilaahay tala saarto oo Allah bariyo oo Allah tala saarto oo xalaal meerto oo taacada ku dadaalo waxa laga yaabaa ilaahay inuu barakeeyo aan ku soo khatima taasi waxa jiray nin taajira tijaarta wadanka kamid noqday talabul ilmigu ya rabbi laabay xaraw yarbu ahaa neefsa kaaba la siiyey neefkiisa kada buu iibiyey goosara timirada goosarada mataqaaniin ya waagi hore waxa lagu keenin jiray timirta markiisa waxaan yani shadaaf baa lagu keenin jiray marka goosaradu waa carabi qawsarra la yiraahdaa la budda lil fata min qawsarra ila akhirih marka qawsarra waa goosarada adigu waa timir marka waxa weyn yani ila 20 kiilo ah ayuu caynkaas kala shadaaf ku jiri jirtay alsa isu dhaafsan shadaaf la oran jiray ku jiray lagu soo xiri jiray tibu soo ibsaday banaan ku dhigtay miisku saaray kafadii miisaan waa soo ibsaday waa laga iibsadaa waa dhamaata waa soo dhigaa yaani meel xataa ma kiraysan shaaracu dhigtay shaarac sidii markuu ku waday dadku ba isaga markaysa ilaahay u sakhiro kuyuun bay u qabsadeen ila wixii lagu barkeynaya waxa weey waxaad moodi maahay albaraka min Allah aku xisaabtay markaysa marka waxaan yani shayga daatiis ya tabaqabsi bil noqday meheradii marka ku dhaweyd ba ciidba u gali weydi waa kacday uu ka baxay meheradii buu kareystay isaga meheradii galay dukaankii markaysa kareystay idinku wuxuu ka mid noqday tijaarta wadanku ka mid noqday masjidna waa dhisay adu marta isagoo marka waxaan yani taajir oo xoolo badan leh oo ku tirsan meel aghniya ya ragga la sheego kamida ayuu geeriyooday ilaahu naxariisto marka wixii lagu barakeynayaa waa shani gaareeyay saas awadeed xaggaasun hawaan qaltaagina ya halkiinan ilaahay tala saarta ku cibaadeysta ku amal fala beled gaalo waxba idin kama jiraan soo gaalnimada ma nicin ya gaalnimo meel kastay ku jirtana waa inaan nacdaan qori iyo qiiqi wala isla tuuraa qori hadduu qiiqayo hadii jeer qiiq leeyahay ya qiiqi wala karaysanay indhuhu qofku markiisa kaga ilmaysanay sama de qoriga qiiqaya waa laga saaraayo waa laga tuuraa marka dabka marka deed caadi u joog kartaan kufriga hadduu xun yahay waa xun yahay oo agarateen oo aan nacdeen waa ina marka meel kastu ku jiraan nacdaan oo gaaladii nacdaan oo beledkoodii nacdaan ya laakiin de isma qabato gaalnimada waa nicbahay laakiin beledka gaalada waa jecelahay ya baqtiga ma cunay fuudkiisaan cabaa duu yiraahdo qofka oran baqtiga ma cunay fuudkiisaan cabaa fuudka ma taqaaniin waa maraqa ya baqtiga ma cunay fuudkiisaan cabaa looma baahna gaalnimo haddii la nacay waa in beledka gaalada iyo gaalada laftoodaba la nacaa hadda marta bilaadka islaamka waa qaban kartaa beledkiinana waa joogi kartaa meesha joogtaan bay ilaahay ku caabuda beledka gaaladana arsaaqdu kuma xidhna
risqi wixii lagu qorayna soo kororsan maysid ilaahay tala saaro talabka cilmigana ku sugnaada calaykum bisabaat الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل صبركم وحو لمد يحي مغعيسو كلو لمد يحي مغعيسو waa maxay الصبر صبر دوعان كما تغني صبر الصبر waxa la yiraahdaa fi lughati al-arab marka qaar ka baad way hoos dhigaan asalatan laakiin waqtiyada qaar kood li takhfiif baa loo reebaayo as-sabr yadana la yiraahdaa wa تعرت قراب ما كرنسان فالصبر اللي يرادا الصبر ولا يرادا مرك قار كود ولا ريبا بعض للتخفيف واللغه لكن اصاله وهوس دغنت بعض مرك الصبر مثل اسمه مغعيس لمد يحي مر مذاقته ددنكيسو قراب لكن عواقبه احلى من العسل هي شعر بدنبيت كيسا علب دنبدديسا يا كمعان ملبكا كمعين marka sabirku aaqibo wanaagsan buu leeyahay waray sugnaado ku sabra talab ilmiga waray ku dadaala war cilmigu waa mashruuc umri weeyi ma aha mashruuc markaysa sanad iyo laba iyo bila iyo kada iyo ma aha ruux haduu doonayo cilmiga maqaam inuu ka gaaro weyn waligiiba wadaa ila mata tatlubu ilma lagu yiri imaam ahmed markaas ila lahdi ila goormad cilmiga talbaysa ila qabriga ila luxudkan ka gaarayo ila lahdi adamarta marka cilmiga waa in lagu sugnaado la wadaa aymada qaar kood baa la soo naqliyaa maalintii ay geeriyoodeen inay waxyaalaha qaar qaybeen ibn malik baa kamid ah waxay yiraahdeen maalintuu geeriyoonayay maalinta lafteedii 8 bayd oo shawaahid u qaybay yiraahdeen yawma mawti ya aymada qaar kood iyagoo sakaraadaya oran jireen ii yeedhi xadiiska ii yeedhi waxa laga yaabaa kii sacaadadii ku jirtay inay markaa wali aanan gaadhin ya iyo wali talabkii ku jira bigeeriyoonayeen waxa ilaqin ishaq xarafka inaan ku guuleystaa laga yaabaa markiisa ku liibaano damarada soo qofku talabkii wada waa inuu ku dhintaa waa inuu wadaa laakiin haddii hiyigaagu yahay sanad iyo 2 iyo 3 iyo 4 markiisa talabka cilmiga baro deedna adduunyo iska qaabil inuu ku cibaadeysto inta waa baran karaa laakiin maqaam cilmiga kama gaari karo waqtiga inaga dhacaan filayaa انت سينوغو جوغيسا والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كالبدا قيمه بدل المحاضره قيمه بدل لا هي شيخ الميزان حسناتك الله صاره معلمها رقاويه لقتيه هي إلهي وكفر يا الله كيرو إنه قال نور شيء إلهي نفرق على الله كيرو شغل الشاشة هو سواء تاني عبدنا صغر وحول صلاتها سنها ويقول هذه إلا وقات قال تعالى صلاته واجباتك إن صفقت الضنباء كنت كدوع عامله أيها الرئيس محل شيخنا الوطن لنا جزاك الله خيرا وبارك الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد سائلku wuxuu tilmaamayaa in salaadaha sunnayaashii ku adag yihiin oo faralka uu ku dadaalo sida hadalkiisa ka dhadhamaysa marmarna waa dhici kartaa inuu iska lifo oo de kollay markii uu ay ugu adag yihiin waa ka wada tagaamo oran marka maxaad igula talin lahayd jawaabtu waxa weeyaan marka hore ilaahay bari in ilaahay ku yasiro ku fudaydiyo wuxuu ilaahay fudaydiyun baa fududaanaya wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah marka Allah ka bari inuu ku sahlo oo ku fudaydiyo oo ku hanuuniyo hidaayadana siniyada ilaahay uga bari hidaayaduna way ziyaada walladina ihtadaw zaadahum huda kuwi hanuunay ilaahay hanuun buu siyaadiya marka Allah inuu ku hanuuniyo yani tadarruc iyo ilhaax leh الله uga bari baryadaada badi cibaadada inuu ku yasiro ku fudaydiyo ku macaaneeyo ilaahay ka bari ilaahay weydiiso istighfaarka iyo tawbadana ku dadaal waxyaalaha qofka ka teeda waxa kamida yaani khayraadka inuu si farabadsado macaasida iyo dambiyada marka istighfaarka iyo tawbada farabadi baryada ilaahayna badi
dadaalkana la kaalayo ku dadaalo isku kalif ruux hadduu marka isku kalifo yacni wanaagyada waa u fududaanaysaa marka dambe oo u sahlananaysa marka naftii waxay u baahan tahay in la cabiidiyey u baahan tahay wannafsu kaطifli in tuhmilhu shaba cala xubi اradaaci wain tuftimhu yanfatimi yacni markaa shicirka xikmada ah waa tasaas yadaa lagu yidhi naftu waxay ka dhigantahay ilmo kaley ka dhigantahay waa sidii ilmo yar ilmaha yar haddii la sii daayo wuxuu iskaga barbaarayaa ku weynaanayaa naaskaas u jaqayo waa ku maacuunoobayaa isagoo ilka yeeshay oo dee markaysa hadduu doono 2 sanaba dhaafay ayuu doonayaa naaskii haddaad laakiin markaa ka goyso waa ka go-ayaa naaska marka laga jaro marka dambe ayaama hore ha doondoono laakiin marka dambe waa ilaawayaa naftuna ilmahaasoo kale la mid marka waxa lagu barbaariyey waxa lagu tababaro ayay ku xidhan tahay marka ijtihaad iyo jiddi baa loo baahan yahay man jadda wajad kii dadaala waa helaa man yatasabbar yusabbirhu allah kii markaa sabirka iska doondoona ilaahay waa sabir siiyaa markaa sidaas aawadeed yacni sabirkana kaalmayso wastaciinu bialsabri waalsalaa yacni khayrkana waxaad ogaataa salaaddu inay fadli badan tahay oo khayr badantao ajar badani ku jiro oo waxyaalaha markaa dhibaatooyinkao dhan yacni waa la kaashadaa salaadda kaana idaa xasabahu amrun fazica ila asalaa sida xadiidka imaam axmed wakhayruhu soo wariyeen sheegaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam marka arrin ku soo darriyo xagga salaadda u argagixi jiray marka salaadda in la farabadsado weeye yacni khayr badan baana ku jira fadli badan baa ku jira qofku waa ku hormaraya hadduu salaadaha farabadsado faacinnii calaa nafsika bikasrati sujuud naftaada igu caawi waxaad igu caawisaa markaa sujuud badnaan markaa sujuuddii in la farabadiyo saxaabigii yidhi markaa nebiga weydiistay calayhi salaatu wasalaam isagoo markaa ugu shafeeco qaado inuu jannada kula rafiiqo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaad igu caawisaa sujuud badnaanta sujuud badnaanta waxaa looga jeedaa salaadda farabadso haddaad salaadda farabadsato fadligaagu waa weynaanayaa fadli badan baad yeelanaysaa ajarkaagaa fara badanaya marka waxa weeye darajo sare inaad jannada ka gasho bay sababaysaa marka waxyaalaha wanaagyada ah sawaabkooda iyo waxa laga helayaa la eegaa marka waxaas qofku milicsado waxaasi la weynaadaan wuu ku dadaalaa masalan xadiis baa soo arooray sheegaya qofka salaamta bilaaba inuu 10 xasano helayo mar baan dhallinyarada qaar waxaan ku idhi halkan inaan hore uga sheegayna waa laga yaabaa haddii lagu odhan lahaa qof kastaad salaamto $10 baad helaysaa akoonkaaga ku dhacaya dhalam maxaad samayn lahayd waxay igu yidhaahdeen magaalada waa dhammayn lahayn ya qof kastaan salaamo haddii $10 akoonka igu dhacayso yacni waxa weye magaaladaba waa dhammayn lahaa buu ihi si aan markiisa de ya dee hadduu 1,000 qof salaamo maxay noqonaysaa 10 ku dhufo waa $10,000 hadduu 2,000 salaamo ka waran waa intaa labalaabkeed dee sawaabka aakhiraa ka weyn ya halka xasano $10 iyo wax ka badan toonna uma dhigmaan xasanadii waa shay qaali ah aakhiro hal xasano wax ku siiye heli maysid qofku ugu deeqayo koodhan xasanadan qaado miisaanka ku yebiirsatide aabbaha iyo hooyadaa kulay ku tahay ya qof kuugu deeqe heli maysid hal xasano xasanaadka aakhiro waa ka qiimo badan yihiin maalka adduunyada laan yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam litaqriib bay yidhahdeen culamada looga jeeda litaqriibi ila alafhaam fahmada loo soo dhoweynaya wailaa daratun fi alaakhira khayrun min addunya wamaa fiiha culamada qaar baa ka cabira dara aakhira waxay ka wanaagsan tahay adduunyadii waxa ku suganba laakiin misaalka halkan lagu sheegayaa waa litaqriibi ila alafhaam marka calaa kulli xaal jiddi iyo ijtihaadna la kaalay oo ku dadaal sawaabkii ajarka ku sugan milicso isku waani yacni aasaartii iyo waxa weeye taraajimtii saalixiintii iyo dadkii wanaagsanaa iyo siday ugu dadaali jireen sunnayaasha taana taalaco xaafis baa ku sugan wax kugu kicinaya
marka aad iyo aad ugu dadaal ilaahayna ka bari inuu ku waafajiyo ku yasiro wallahu aclam jazaaka allahu khayran baaraka allahu fiik sheekhana ardaygana waxa uu leeyahay dad waxaa jira heesaha dhagaysta oo haddana masaajidda qaar tujiya ma bannaan tahay in aan salaada ku daba tukado jazaaka allahu khayran wabaaraka allahu fiik baaraka allah fiikum dhegaysiga heesaha la dhegaysanayo khaas ahaan kuwa kamanada leh ama daramalka la garaacayo leh culammadu waaba ku ijmaacsan yihiin inay xaaraan tahay inay bannaanayn ahlucilmi fara badan baa soo naqliyay ijmaac ashyaada qaarkood oo heesaha laga yaro reebay waa jiraan ama ha ahaato markaysa markaa heesta geela ama hees hawleedka ama waxyaalaha caynkaasa ama yacni waxa weeyaan marka guurka oo kale dumarku marka ataynaakum alfaad waatay soo aroortay waxyaalaha caynkaasee latiifkay waa jiraan laakiin heesahan macruufkaee la yaqaano ee waxa weeye markaysaa kamanada loo yeelaayo waa mid xaaraana weeye oo nusuustii adiladuna ay ku tusinayso xaaraannimadeeda culammaduna ay ku ijmaacsan yihiin oo ijmaac culamo uu jiro ijmaacuna waa xujo sharciya weeyaan saas aawadeed waa in aad iyo aad la ysaga ilaaliyaa allahna looga toobad keenaa la ogaadaa inay xaaraan tahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam axaadiis mutacadida ayuu ku sheegay xaaraannimada ay xaaraanta tahay heesuhu iyo aalaadka yacni markaa daramalka kamanadu inay xaaraan yihiin waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yakuunu fii ummatii qowmun yastaxilluuna alxira waalxariira waalkhamra waalmacaazif waxaa ummaddayda ku jiri doona dad yacni xalaashanaya xariirta rag xalaashanaya xariirta iyo khamriga iyo macaasifta aalaadka yacni markaa lahwiga waa daramalka iyo markaysa markaa kamanadaas aalaat lmacaazif bay culammadu yidhaahdaan aalaat lahwi iyo zinada xalaashanaya yastaxiluuna alxira waalxariira waalkhamra waalmacaazif loomala jeedo majmuuca marka la ysu geeyay xaaraan isku noqonaysaa oo wax ka mida bannaan muraadku maaha waxaa la garanayaa ashyaadan mid waliba inay xaaraan tahay baa la garanaya waayo shay xalaala iyo shay xaaraan inta la ysku daro lama yidhaho way xalaashanayaan marka le waa xalaashanayaan kaa iyo kaa iyo kaa way xalaashanayaan inuu mid waliba xaaraan yahay baa laga garanaya oo siyaaqu ku tusinaya yastaxilluuna xadiisku waa saxiix bukhaarina saxiixiisa ayuu ku soo wariyey culamada qaar baa yidhi waa mucallaq laakiin sida saxiixa inaanu mucallaq ahayne musnad yahay oo saxiixa bukhaari ku sugan yahay isagaan mucallaq ahayne musnada baa sawaab ah waayo hishaam ibnu camaar oo mashaayikhdiisa ka miduu ka warinaya xadiiska oo odhanaya qaala hishaam ibnu camaar siiqada caynkaasoo kale ah axada mashaayikhii hadduu wax kaga wariyo shiikh haddaanu mudallis ahayn waa maxmuulun cala asamaac samaac baa lagu xambaaraa waalbukhaariyu laysa bimudallis bukhaarina mudallis maa oo siiqa muxtamila lisamaaci wagayriha inuu isticmaalo ama daahir ku ah markaysaga maqal aan laakiin sariix ku ahayn inuu isticmaalo isagaan ka maqal ma dhacayso waayo mudallis maaha wax tadliis ku sheegayna ma jiro fardan wa taqdiiran haddii laga soo qaado inuu mucallaq yahayna maba ahe waa musnade dariiqyo kale oo markaa itisaalkoodu uu sariix yahay baa jiraa oo saxiixa ahlucilmiguna markaa ay saxiixiyeen anaa badan muxadisiinta ka mid qowlka xadiiskaa cilaynaya ee laga sheegay ibnu xasmi waa qowl markaa daciifa aan la cuskanayn a'immada xadiisku waxay mareen qaatibatan yacni markaa salafan wa khalafan inuu xadiisku saxiix yahay qabuulna waa kula kulmeen axaadiis kalena waa jirtaa oo mawduuca loo daliishadaa markaa saas aawadeed yani waa mid xaaraana waa in la yska ilaaliyaa oo la yska jiraa yani markaa heesahaas iyo kamanadaas heesaha kamanada lihina waa bilijmaac bay xaaraan ku yihiin ma arrin dembiya waa in laga toobad keena allah loo noqdaa yacni hebel baa baneeyey hebel baa baneeyey hebel baa samayn jiray xujo noqon mayso wax badan oo markaysa markaa la sheegayaana ma sugna marka cidda markaa samaysaa ma lagu daba tukanaya arrinka ku saabsan jawaabtu waxay tahay tukashada lagu daba tukadaa way asaxaysaa laakiin
cidda ka maran baa ka fiican oo axsan ka ah laakiin sida marka ahlu sunna wal jamaaca ay qabaan yacni ruuxii markaa cisyaan ku sugan yahay salaaddii haddii lagu daba tukado way asaxaysaa maslaxa hadday ku jirto ku daba tukashada lagu daba tukanayana waa lagu daba tukanayaa haddii markaa ruuxa aanu helay cid kale uu ku daba tukadana qaطcan markaa jumcada iyo jamaacada uga tegi maayo kan baa marka waxa weeye markaa cisyaan sameeya ama wax la mida uga tegi maayo waa ku xidhanayaa xaaladda uu helayo waxaa dhici karta lafteeda inuu waqtiyada qaarkood yacni sababi ay keensato inuu ku daba tukado ayaa markaa suuroobi karta ama waxa weeyaan uu doonaayo inuu yacni u nasteexeeyo ama wax la mida maslaxo gaari inay ku jirtaa markaa suuragal ah haddii aynay ku jirin oo awoodi karaayo cid kaloo ka maran inuu ku daba tukado way ka fiican tahay waayo dadka saalixiinta salaadda inuu ku xidho iyaga la tukadaa yacni waa ka wanaagsan tahay ciddii sidaas aan ahayn lamasjidun usisa cala ataqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiihi rijaalun yuxibuuna an yatataharuu waxaa ku sugan bay yidhahdeen culammadu jamaacada saalixiinta tukashada lala tukadaa inay ka fiican tahay ciddaan markaa sidaas ahayn waayo masjidkii taqwa lagu aasaasay laguma kaaftoomin lamasjidun usisa cala ataqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih maxaa la sii raaciyey fiihi rijaalun yuxibuuna an yatataharuu waxaa ku sugan rag jecel inay isdaahiriyaan marka inay axsan ka taha oo ka fiican tahay cidda xumaanta ka maran cidda cisyaanka ka maran in lagu daba tukadaa inay ka fiican tahay waa shaki kuma jiro oo taasi afdal tahay laakiin haddii ay qofkii ku qabsato yacni inuu ku daba tukadaa way asaxaysaa oo waxay noqonaysaa mid markaa asaxaysa culamada qaar waa soo celinaya waa yidhaahdeen laakiin sida saxiixa insha allah waxba soo celin maayo waxayna culammadu qaacid ahaan yidhaahdaan man saxat salaatuhu linafsihi saxa ligayrihi an ya'tama bih ruuxii salaadiisu naftiisa u asaxdaa cid kale inay ku xidhatana waa asaxaysaa cabdullaahi bnu cumar waxaa ka sugnaato ka asaxday inuu xajaaj ibnu yuusuf inuu ku daba tukaday oo markii waxa xajaaj ibnu yuusuf maka uu soo weeraray oo cabdullaahi ibnu zubayr yacni uu markaa doonaayey inuu markaa xukunka ka tuuro oo qabsado dhagxantii marka waxa manjaniiqyadii loo soo rakibay markaysa waxaan yani markaa xaramka isaguna uu ku sugnaa yani loo soo rakibay markaysaa kacbada agaarkeeda baytullaahi alxaraamka oo isaguna ku jiray oo cabdullaahi ibnu zubayr iyo ciidankiisu waxay ku jireen yani masjidka ilaa markii dambe ciidamadu albaabada uga soo galeen markii dambena marka masjidka gudihiisa lagu dilay intii dagaalkaasi socday cabdullaahi ibnu cumar marna salaadda qoladaasu la tukanayay marna qoladaasu la tukanayay sanad saxiixayna ku soo arortay ya xajaaj ibnu yuusufna waxaa nin faasiqo fisqigiisu daran yahay waatuu yihi cumar bnu cabdilcasiis low takhaabasat ilumam fajaءat kulu ummatin bikhabiisiha waji'naahum bilxajaaji lahalabnaahum ummadu hadday isu xumaan dhigan lahaayeen odhan lahay xaakimkayagaa idinka xun iyo kaayagaa idinka xun iyo xaakimkayagaa idinka xun oo qolo waliba ka ugu xun keeni lahayd annaguna xajaaj keeni lahayn buuri lahalabnaahum waa ka haalib noqon lahayn buuri hadda maarta maalintii uu dhintay xajaaj ibnu yuusuf sheelasha waxaa laga sii daayay 380,000 oo maxaabiis ah cadad intee leeg waxaa ka daran intuu dilay ya madaxdii ka horreysay qaar baa waxay samayn jireen marka ay qof markaa dee qoonsadaan ama ay markaa uu ka hor yimaado way xidhi jireen qaar waxay ku tacsiiri jireen xadhig qaarna waxay ku tacsiiri jireen inay intay timaha ka xiiraan sii daayaan markuu xajaajimu yidhi hada cabas taasi cuquubo maahee waa iska dheeldheel seeftu kaga shaqaysiiyey dabeedna ya seefta ayuu kaga shaqaysiyey imaamu tirmidi wuxuu ku soo warinayaa jaamiciisa isagoo hishaam ibnu xasaan ka soo warinaya taabiciga la yidhaahdo wuxuu odhanayaa hishaam ibnu xasaan xajaaj ibnu yuusuf wuxuu dilay 120,000 ayuu dilay sabran waa maxay waa cidda barhka la taagay ee iyagoo la hayo la dilay maha cidda goob iyo dagaal ku dhimatay maaha cidda inta la qabtay la dilay iyagoo la hayo barhka la taagay kurka ka jara la yidhi ya kurka ka jara inta la yidhi tiro male
odhan jiray kurka ka jara 120 kun intay laagta oo casrigaa joogaa waa khayrul quruunkii baa la joogaa 95 kii buu dhintay soma qarnigii koowaad marka de saas isagoo aba haddana saxaabadu ay ku xidhan jireen Abdullah ibn Umarna ay ka asaxday inuu ku xidhay salaadii wallahu a'lam jazakallahu khayran wa barakallahu fiik ardigana sheekh waxa leeyahay waxay ugu adag laqbada tafsiirka arday iska bilowna waan ahay maxaad uga talin lahay in aan cilmiga miftaax u noqdo kitaabkeen laakiin ictimaadaan jazakallahu khayran wa barakallahu wa fiikum barak tafsiirku wuxuu u baahan yahay marka hore in marka wasaa'ishii inuu ruuxu ka dhismo u baahan yahay culumul wasaa'il naxwihii iyo sarfigii baa loo baahan yahay qofku isagaan markaa soo marin naxwe iyo sarfi iyo soo marin hadduu is yidhaahdo tafsiir iska dhigo dee tafsiirkii ma fahmayo wacdi waa u noqon karaa laakiin cilmi u sugnaanaya oo u baranayo tafsiir yacni meeshiisii ma gaadhin maqaamkiisii maaha wacdan ha isaga dhegaysto laakiin asaasiyaadka waa inuu iska soo dhisaa culumta naxwaha iyo sarfiga naxwaha waxaa la yidhaha sullamu lcilmi waa sallaankii cilmiga qofku haddaanu sallaankii cilmiga aanu korin cilmigu de waa koreeyaa sadxiga uma bixi karo sadxigu waa xagga sare ee saqafka ka koraysa sadxi baa la yidhahda xaggaynu soo xigtana saqaf baa la yidhahdaa marka tarqa sadxa bilaa sullam miyaad markaa sadxiga koraysaa sallaan la'aan xagga xadiiskay u soo qaadan jireen hadalkaas oo sanadku inuu yahay sallaankii xadiiska laakiin hadda mawdicaynu u soo qaadanaynaa waxay tahay cilmiga oo dhan waxaa sallaan u ah fahamka la fahmayo garashada la garanayo barashada la baranaayo dee cilmiga carabiyada in loo aqoon yeesho khaas ahaan naxwihii iyo sarfigii waa inuu qofku caamilkii fahmaa cawaamishii kala gartaa caamilkiiyo macmuulka kala gartaa yacni laqbada haddii kale waa jejebinayaa isagoo isle waxbaad saxaysaa baanu saxayn hadda maarata marka xaggaa iska soo dhis kadibna takraarkiiyo ku celcelinta farabadii haddii naxwaha qofku caamilka fahansan yahay oo caamilkii garanaayo oo caamilkiiyo macmuulka iyo yacni markaa u bartay tacalluqu wuxuu yahay soo bartay yacni marka waxa weeye naxwaha qadar yacni marka qadarka ugu yar ee wax lagu fahmi karo uu xasiliyey bacda dalik waxa weeye waa dhigan karaa tafsiirkii laakiin haddaan naxwo albaabkaba ka furin ya dee waxa weeye laqbadii ma keeni karo hadduu is yaha laqbeena qalad buu laqbaynaya hadduu is yaha laqbeena qalad buu laqbaynaya sarfiguna waa lagama maarmaan haddii kale maadooyinku isku qaldayaa yowma yudacuuna mid baa fasiray oo yidhi waxa weeyaan yadcuuna u fasiray yudacuuna wuxuu mooday yadcuuna dee inay la macno tahay oo markaasuu yihi waa loogu yeedhayaa buuli wax jirana maaha addacu huwa addafcu bicunfin waa riixmada markaysa markaa waxawan yani si adag qofka markaysaa loo riixo oo loo tuuriyeeyo yacni maalinta markaysa markaa lagu daafacayo lagu riixayo lagu tuurayo yacni markaa jahannama addamarta marka addacu huwa addafcu bicunfin marka maadada yacni u yaro eg laba maado isu eg baa iskaa qaldamaya qofkii marka sarfigii waa muhim mawaadkiibuu ku kala garanaya xataa baadhashada qofku baadhanayo macaajimta iyo qaamuusyada markaysaa ma baadhan karo haddaanu yacni markaa sarfigii garanayo meelaan meesheedii ahayn buu ka baadhaya marka waxaa loo baahan yahay calaa kulli xaal waxyaalaha asaasiyaadka qofku inuu barto waa loo baahan yahay naxwaha iyo sarfigaasi aad iyo aad bay muhim u yihiin lagama maarmaanna u yihiin kutubta tafaasiirta haddii la eegaayo qaarna waxay ku fiican yihin xagga laqbada qaarna waxay ku fiican yihin xagga aasaarta iyo aayadaha waafaqaya marka xagga marka haddii la eego laqbada kutubta laqbada ka caawinaysa sida markaysaa markaa xaashiyada jamalka oo kale waa fiican tahay oo alfutuuxaat illaahiya waa ka mid kutubta markaysaa anfacaysa wakadalika kuwa kale la nooca ee iyaguna markaysaa la midka ama nasafi ha noqdaan ama markaysa markaa waxaan yani abu xayaanka ha noqdaan kuwaasoo kale laakiin wuxuu ka taxadirayaa
ta'wiilaadka sifaatka iyo ashyaada markiisa markaa ta'wiilkii ashaaciradu soo gelaayo ayuu ka taxdiraya xagga aasaarta yani kutubta marka waxaa tafsiir ibnu kasiir yani aad iyo aad buu markaysaa muhim u yahay wakada hadduu ku cuslaado mukhtasaraadkii laga ikhtisaariyey kitaabkaas ayuu markaysa marka waxaa ictimaadaya noqonaya kan marka waxa weyaan yani tafsiirkan yani markaa sacdi waa fiican yahay waa mufiidun jiddan waxaanu ku saabsan yahay fawaa'idka laga istimbaadaayo iyo macnaha ijmaaliga ah laakiin waxa weeye yani kolley aasaar badan ma soo aroorinaayo laakiin fawaa'id badan oo kale ayaa ku jiro aad iyo aad u macaan ayaa markaa ku sugan oo la kaashan karaa wallahu aclam jazaaka allahu khayran wabaarak allahu fiik sheekhana ardayna waxau leeyahay waxaan ka soo jeedaa ehel u badan suufiyo inaan salafiye wax ka dhigtaanba culimada salafiyada aad baa laygu dhaleeceeyaa markaa mar walba al-shabaab baa tahay bay leeyihiin maxayna gudboon aan sameeyo jazaaka allahu khayran wabaarak allahu fiik jawaabtu waxay tahay cilmigu wuxuu u baahan yahay sabir buu u baahan yahay waana dhici kartaa qofka de in la imtixaano oo a'immadii salafka imaam ka mid ah waxaa laga sheegay inuu yidhi aabbaha iyo adeeraday waxay ahaayeen yani laba qolo oo bidcaa buu sheegayey qolona raafiday ahaayeen buu yihi qolona khawaarij bay ahaayeen buu yihi talo adigu laba qolo laba firqo oo labaduba lunsan yihiin ayaa geesna xagga aabbaha iyo adeeradayba ahaa buu yidhi geesna waxa ahaa waa akhwaali rawaafid abtiyadayna raafiday ahaayeen buu yihi dabeedna imaam a'immadii sunnada ka mid a inuu sufyaan athawri ahaa baan filaya buu ilaahay ugu badbaadiyey buu ya waan labadii bidcaba kaga nabad galay qofku waalidada inuu u samafalo waa tahay laakiin wixii dembi ah ku ateeci maayo wa bilwaalidayni ixsaana labada waalidna u samafala samafal wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaana cibaadada allah loo keli yeelayo marka laynoo sheego samafalka labada waalid baa lagu lamaanayaa fii aayaatin cadiida aayado mutacadida waqadaa rabuka an laa tacbuduu ila iyaahu wabilwaalidayni ixsaana laakiin taa macnaheedu ma aha in yani lagu ateecayo wixii dembi ah wain jahadaaka calaa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun falaa tuطichuma hadday kugula dadaalaan inaad igu shariig yeesho waxaan cilmi kugu sugnayn ku ateecin shirki oo keliya ma macsi oo dhan baan lagu ateecayn sida nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq makhluuq lagu ateeci maayo cisyaanka khaaliqa la caasiyaayo inama altaacatu fi lmacruuf xadiiska kale waata ku timi saas aawadeed waa in markaa aan lagu ateecin yacni culammada sunnada waxba ha ka dhiganin iyo sunnaha dhiganin iyo yacni ashyaadaas laguma ateecayo waa inaad markaa waxa dhigataa tawxiidka iyo sunnada cidda qumane ahlu sunnahana ka dhigataa ka barataa kuna sabirtaa dhibta lagu dhibaayo waalidadana markaa waxaa weeye sidaad markaa ama ugu tawriyeyn lahayd ama haddaad dhibaato badan ka baqdo tawriye ula iman lahayd haddii aan dhib ka baqayn yacni hadalun mooyaane caddayso laakiin haddaad istiraho dhibaato aanad qaadi karin bay kugu kalifayaan yacni tawriyey ashyaa baad samayn kartaa una caddee inaad waxa ay kuu nisbaynayaan aad ka beri tahay oo ka dheer tahay oo aanad shaqo ku lahayn ay markaa waxay lunsan yihiin kuwaasi culamada ad dhegaysato markay dadka ka hadlay ee ka mida mashaayikhda ad dhegaysato yacni kilibada ay kaga hadleen qaad dhegaysii mashaayikhdan wax ka dhigta waa kuwa sidaa uga hadlaya waa kuwa sidaa ka yidhi waa kuwa sidaa kale waa kuwa sidaa baatilnimadooda u caddaynaya haakada waxay ka mid tahay waxyaalaha ku daafacaya ayay ka mid tahay marka iska hadallada wuxuu u baahan tahay inuu qofku ku sabro hadday wixii iska hadal tahay ya wasbir calaa maa asaabak wixii ku haleela yacni ku sabir markaa sabirka ku dadaal yacni hase uga tegin cilmiga barashadiisa yacni ha uga tegin yacni ku dadaal kuna sabir markaysaa wax aflagaadadii ashyaadaas ku sabir wakhtiyada qaarkood haddii dhib badan aad ka baqdaan aad tawriyayso oo wixii yani sarbeeb iyo wax la mida kula hadal
laakiin khayrka markaysa inaad ku dadaasho aad iyo aad ugu dadaal dhibaato ka badan baana cilmiga iyo sunnada loo soo maray yacni dad baa markaysa markaa loo dhibaateeyey waalidadu xataa u dhibaateeyeen qaar baa la garaaci jiray qaar baa la xidhi jiray adna waxa weeye markaa shaygaas sheegaysa waa iska hadal un iyo iska dacaayad wax ku saabsan waxaasina markaysa markaa wax weyn ma aha markaa sabirka ku baro ashyaada qaarkood kula kulmo waqtiyada qaarkood ba leeyahay tan sabirka ku baro tan dulqaadka ku baro wallahu a'lam jazaaka allahu khayran baraka allahu fiik sheekhana su'aashana waxaa odhanaysaa markay culimmadu ka hadlaan dadka ahlu sunnaha in wax laga baranayo dadka qaar baa idhaahda khayrka iyo wanaagga la baranayo cid walba oo laga qaataa oo taasi dadka kula taliya ardayda qaarna talada culimmada ma qaataan oo ciddii wax dhigaysaba way ka dhigtaan talada ugu nasiin lahayd maxay tahay jazaaka allahu khayran baraka allahu fiik jawaabtu waxa weeye barashada cilmiga yacni la baranayo waa in cidda wanaagsan ee lagu kalsoon yahay laga bartaa cidda ahlu sunnaha ah ee lagu kalsoon yahay aqoontooda iyo itibaacooda waa in cilmiga laga bartaa laga qaataa cid walba aan laga qaadan taasina waa dariiqadii markaa a'immadii salafka ay ku sugnaayeen waana sida nusuustii adilada laga daliishanayo adiladu waxay tilmaamaysaa cidda lala saaxiibayo lala fadhiisanayo laga faa'iidaysanayo loo dhowaanayo inay noqonayaan cid quman oo wanaagsan ay noqonayaan adila mutacadidana laga qaadanaya masalu jaliisi saalix waljaliisi suu ka xaamil miski wanaafiqi lkiir xadiiska saxiixaynka yacni ka wanaagsan lala fadhiisto iyo ka xuna lala fadhiistaa nebigu laba tusaale ka kala bixiyey midna inuu ka dhigan yahay kii miskiga iyo udgoonka sida ee xambaarsanaa oo kaa miskiga sidaa saddex mid buu ka dhexeeya ima an yuxdiyaka wa ima an tabtaaca minhu wa ima an tajida minhu riixan tayiba nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kan xaamilu miskiga ahi ima an yuxdiyaka ama waa inuu ku siiyo wax miskiga ka mida wa ima an tabtaaca minhu ama waa inaad marka ka iibsato wa ima an tajida minhu riixan tayiba ama ur wanaagsan iyo udgoon wanaagsan oo kasoo kankamaya waa inaad ka hesho muntaficun bihi fi kulli xaal mar walbaad ku intifaacaysa wanaafiqu lkiiri ima an yuxriqa siyaabaka wa ima an tajida minhu riixan khabiisa ama waa inuu maryaha kaa gubo ama waa inaad ur xun ka hesho yacni mar walba waad ku dhibaatoonaysaa dhib baa kaaga imanaysa waa laba masal oo lagu kala tusaaleeyo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku kala tusaaleeyey marka ruuxa yidhaahda ruux walba cilmiga ka dhegayso oo cilmiga ka dhigo waxay noqonaysaa jaliisu suu iyo jaliisu saalix ma kala farqin haddii kale uu markaysaa wuxuu u qabaa yacni ka bidcoolahay inuu jaliisu saalix yahay buu u qabaa taasina waa arrin kalad aan sax ahay marka jaliisu suu iyo jaliisu saalix meel in la wada mariyaa sax maa wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska tirmidi wakayruhu soo wariyeen almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalilu waa loo daliishadaa waxaa kaloo ka mid a xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam uu yidhi dajaal hadduu markaa soo baxo falyanna canhu yacni markaa ruuxii dajaal maqlaa ha ka fogaado ha ka dheeraado fawallahi ina rajula layaأtiihi wahuwa yaxsabu annahu mu'minu fayatabichu lima yabcasu bihi min ashubuhaat waxay ka mid tahay adiladay culamadu u daliishadeen imaam axmed ayaa soo wariyey wa min ariiqihi abu daawuudna waa ka soo wariyey waana saxiix waa xadiis saxiixa weeye xadiis saxiixa weeyaan wejiga laga daliishanayaana waxay tahay waxaa la yidhi dajaal uga dheeraada waa cillo weeye cillada markaysa markaa ku saabsan yacni waxaan ku gaar ahayn dajaal waa cilla caama waxa laga cabiro waa cilladu waxay u qaybsantaa sababulxukmigu cillatun caammatun iyo cillatun khaasa marka ma cillo dajaal ku gaara mise waa cillo ka caamsan waa cillo ka caamsan oo waa maxay waa in shubahaat waxaa luminaya u saaxiib yahay yacni mar baa waxa dhacda xukunku inuu khaas noqdo lafdigiisu laakiin cilladiisu ay caamo noqoto marna waxaa dhacdaa xukunku inuu noqdo caam laakiin cilladiisu khaaso noqoto culammadu waxay yidhaahdeen cilladu hadday caamo tahay ama khaaso noqoto xukunku iyadu raacayaa
hadday caamo tahayna caam buu la noqonaya hadday khaaso tahayna khaas buu la noqonaya waqad tukhasisu waqad tucamimu liasliha lakinaha laa takhrimu yacni cilladu markaysa inay wax khaas yeesho waa dhacdaa inay wax camimtana waa dhacdaa hadday cilladu cilla caama noqoto xukunku caam buu noqonaya alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wacadaman xukunku cilladu la wareegayaa joogitaan iyo maqnaanshaba hadday cilladu caamo noqoto waa inuu caam noqdaa sababtaasay culammadu ugu daliishadeen xadiiskan ay ugu daliishadeen dajaal mid ku khaasa maaha waayo markuu nebigu xukunka sheegay ayuu muxuu raaciyey fawallaahi ina arajula layaأtiihi wahuwa yaxsabu annahu mu'minun fayatabichu lima yabcasu bihi min ashubuhaat marka cilat lxukmi weeyi marka xukmi lasoo sheego inna laga dambaysiiyo waxay noqotaa alimaa watanbiih cala alcilla cilladii oo la baraarujinayo cilladaasina waa shubuhaat mudila inuu u saaxiib yahay shubuhaat mudila inuu u saaxiib marka meel kastoo shubuhaat mudila ku sugan tahay xukunkaasi waa ku sugnaanaya falyana canhu waa ku sugnaanaya marka saas aawadeed a'immadii hore u daliishaday cukbari ayaa u daliishaday oo 387 hijriga dhintay kitaabkiisa alibaana xadiiskaasuu u daliishanaya ahlulbidca in laga fogaado hadda qarnigii afraad buu joogaa ya waagii hore waxaan arkay ibnu cuthaymiin oo u daliishanaya laakiin berigii dambe haddana waxaan arkay a'immadii hore qaarkood inay u daliishadeen oo ibnu batata alcukbari saaxibu libaana inuu xadiiskaa u daliishaday ahlulbidaca in laga fogaado u daliishaday adilo badan oo kalena culammadu waa u daliishadaan waxaa ka mid ah xadiiska saxiixaynka uu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam idaa ra'aytum aladiina yatabicuuna ma tashaabaha minhu faulaa'ika aladiina sama allahu faxdaruuhum bukhaari iyo muslim baa soo wariyey nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam haddaa aragtaan kuwa mutashaabihaadka raacaya kuwaasi waa kuwa ilaahay sheegay ee ka digtoonaada marka kuwuu nebigu yidhi ka digtoonaada in la yidhaahdo ha ka digtoonaanina cid walba ka dhegaysta cid walba ka maqla tan noocaasi nusxi ma aha waa kishi yacni dadkii markaysaa la kedinaayo yacni waxa weyaan markaa aan daacadnimo wax loogu sheegay wixii markaa waxaa khaldan waa in loo sheegaa wixii markaa waxaa cilmi saxan iyo sunne iyo tawxiid dadka u sheegaya iyo ciddii markaysaa markaa ciddii bidca markaysaa markaa ugu baaqaysa waa inaan isku mid laga dhigin ya ka warran markaysaa markaa waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u arkay nin iibinaya raashin yacni qoyaan ku jiro saasuu gacanta u geliyey nebigu calayhi salaatu wasalaam fawajada balalan gacantiisii uu qoyaan ka helay markaasuu maa hada yaa saaxiba aطacaam ya kani muxuu yahay qoyaankani korka markaysaga markaa in qalalan baa saaran markaasuu asaabatu asamaa roob baa helay markaasuu afalaa jacaltahu fowqa aطacaami ka yaraahu nnaas maad raashinka korkiisa ka yeeshid yacni qoyaanka si ay dadku u arkaan oo markaysaga qoyaankii iyagoo u badheedhay ama ay kaaga iibsadaan ama iskaga daayaan man hashana falaysa mina kii kishi nagu sameeya nagama mid aha raashinkii qoyaan yar qofkii ku daray ee ku dhex qariyey ayuu nebigu ka yidhi man hashana falaysa minaaye bal qofka cilmigii bidca ku dhex qariyey ka warran ya bidcadiina dadka aanu markaysa markaa waxaan u caddaynayna ku dhex qarinaya ala sunno weeyi sidan weeyi ta'wiil bay leedahay wajay leedahay kada bay leedahay ya ruux hadduu ku dhex qarinaya ka warran yadusuuna summa fi lcasal ahlu dalaalku yacni malab bay sunku ugu qooshayaan sun markaasonse waa macaanyi waa malabe horey sun baa ku dhex jirtaa sun ayaa ku dhex jirtaa ruuxu inuu yidhahdo cid walba waa iska dhegaysanayaa sax maa a'imadii salafku maxay odhan jireen ina hada alcilma diinun fanduruu canman ta'khuduuna diinakum cilmigani waa diin eega ciddaa diinkiina ka qaadanaysaan hadda maarta aasaaru salafiya ya taabiciinta qaarkood maxay yidhahdeen taabiciinta qaarkood waxay yidhaahdeen markii hore cilmiga cid walba waa laga qaadan jiray xataa waqacat ilfitna falama waqacat ilfitna qulna samuu lana rijaalakum fain kaanuu min ahli الsunati fayuukhaduu bixadiiثihim wain kaanuu min ahli اlbidcati falaa yuukhaduu bixadiiثihim a'immadii taabiciinta odhanaysa ya ibnu siriin wuxuu yidhi xadiiska markii hore cid walba waa laga qaadan jiray ilaa fitnadii dhacday markii fitnadii dhacday ahlubidcu soo baxeen baanu nihi raggiina noo magacaaba hadduu ahlu sunno yahay
asarka imaam muslim wuxuu ku soo warinayaa fii muqadimati saxiixihi ayuu ku soo warinaya cidda odhanaysana waayo madkhali baa yidhi miya ma mucaasir baa yidhi mutaakhir baa yidhi waxa weeye waa imaam min a'immati asalaf ya maaha waxa markaysa markaa caalim casrigan jooga markaysa miduu yidhi maaha asalkii hore weeye waa a'immadii salafka ya oo culammadii taabiciinta ayuu ka mid yahay wuxuu ka xikaayoonayaa yacni siday shakhsigiisa maaha siday yihiin markaysaa taabiciintu ahaayeen markaasuu yihi markii ay fitnadu dhacdaan yihi sammuu lana rijaalakum raggiinna noo magacaaba hadday ahlu sunno yihiin xadiiskooda waa la qaadanaya hadday ahlubidac yihiinna xadiiskooda la qaadan maayo qaacidadu waa saa weeye hadda maaragta waxaa laga yaabaa inay cuskadaan oo yidhaahdaan oo sawta kutubulxadiis ay kaga wariyaan a'immada xadiisku bacd yacni markaa ruwaadda qaarkood oo bidco lagu ganay waxaa la odhanayaa ugu horrayn cid kastoo bidco lagu ganay ma aha ilaaba ilaa inay bidcoolayaal ahaayeen saas aaweed ba a'immada qaarkood waxay ka cabiraan rumiya bilbidca qaar bidco beri ka ah ayaa bidco wakhtiyada qaarkood lagu ganay ijtihaadan aw khata'an haaniyan tan noocaasi waxay ahayd xaalad daruura ah oo ku saabsan marka waxaa weeye axaadiista nebiga in la islahayo aan waxba ka lumin oo baabu riwaaya ku saabsan baabu diraaya baabu riwaayana farqa udhexeeya caraftum muraad alriwaaya waa werinta axaadiista la soo warinaayo binasihi sida nebiga looga soo wariyey looga soo naqliyey taasna waxaa markaa ammaanada qofka iyo sidqigiisa ayaa u sii miisaan badan waxa la eegaayo ama baabu diraaya xagga tafsiirka iyo macnaha marka la sheegaayo ra'yigaa shaqaynaya bidcadii maxal bay ku yeelanaysaa laakiin bidcoolihii hadduu markaa wakhtigaa salafka joogay uu ahaa mid markaa saadiq oo amiina uu ahaayo ammaanadiisi iyo sidqigiisu ay jirtay waxana ay tahay wax aanu ku tasarufina isaga ra'yigiisi iyo bidcadiisi aynay gelin ay tahay wuxuu markaa maqlay xadaanii fulaan can fulaan can fulaani can rasuuli lahi sala allahu alay slm annahu qaala kada hadda tafsiirkii uu fasiray maaha xadiiska waa naqliga uu soo naqliyey beenna laguma yaqaane run baa lagu yaqaaniye ammaano bidcadan wuu ka diin yeelanayaa taasaa la ysidhi axaadiistii waxba luminoo baabu riwaayada la aqbalay yacni xaalaadka caynkaasa waa xaala mustasnaa laakiin marka baabu diraaya lama mid aha tafsiirka nusuusta la fasiraayo qur'aanka la fasiraayo xadiiska la fasirayo ra'yigiisibaa shaqaynayo dhex gelaya meesha wuxuu doonayaa si uu bidcadiisa u waafajiyo saanu uga hor iman si uga awilo si uga leexiyo si uu yidhahdo markaysa markaa waxaan yani muraadka looga jeedaa sidaa ma aha sidiiyo sidaa looga jeedaa hadda maarta hunaaka farqun bayna ariwaaya waadiraaya marka waxa markaa baaburiwaaye lagu yani cafiyaa macnaheedu maaha baabudiraaye inay ku bannaan tahay iyo tafsiirka nusuusta inay ku bannaan tahay maaha xaaladda caynkaasoo kale ah waxa markaa geli kara ama la mid noqon kara shaksi baa wuxuu ku sugan yahay masalan beled buu ku sugan yahay beledkaa uu ku sugan yahay macallin qur'aanka dhiga lafdigiisa tilaawadiisa akhrintiisa ee ku fiicani waxa weeye waa nin bidcoolaah cid kaleoo qur'aankii saxaysaa meeshaa ma joogto isagana uma sahlano meel kale inuu qabto lafdiga qur'aanka iyo tilaawadiisa inuu ka qaataa shabaha waxay ku yeelanaysaa baaburiwaayihii xaaladda daruurada laa xaalatlikhtiyaar waxaa kala jira maxay xaalatlikhtiyaar iyo xaalatulibdiraar xaalatlikhtiyaar hadday tahay kaa laftiisa qur'aanka isaga ha ka qaadane waxaad markaa ka qaadataa ka marka waxaa yani sunniga ah laakiin xaalatulibdiraar hadday noqoto ya masalan waalid aanad ka bixi karin oo ka hijroon karin baad la joogtaa qur-aan inaad baratana waad doonaysaa hayga teginay kugu yidhaahdeen waalidadii adigii ma safri kartid daacadii waalidka waad ilaalinaysaa cid kaloo qur'aanka lafdigiisa aad ka barataa oo saxaysaana beledkaa kuma sugna meeshaas xaalatulibdiraarku muxuu keensan karaa inaad taha lafdiga qur'aanka iyo tilaawadiisaan ka qaadanaya maaha macnahii markaa tafsiirkii maaha waxay shabbahaysaa baaburiwaayihii marka hunaaka farqun bayna ariwaayati waadiraaya ayaa farqi u dhexeeya xaalatlikhtiyaarka marka waxaa dhici karta
in waxa weeye ashyaada qaarkood saas loo soo reebo marka mustasnayaadka in xujo looga dhigto baabkii in la waasiciyo oo la yidhaahdo markaysaa si iska furan buu isaga bannaan yahay ya ee waxaad tidhahdaa markaysaa kana wadaad ma tahay kaad aragtaba aad tidhahdo mid walba kitaabka hoos qabsato aad tidhahdo ii akhri oo mid waliba kugu shubo ya yani dee sax noqon mayso saas baaraka allah fiikum jazakum allah khayran raalliha layga ahaado waqti waa dhacay waana dhaaftay waqtigii hadda la qabtay ee dambana baaraka allah fiikum assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu